بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أولا صلى الله تبارك وتعالى أن يبارك جميع الطلبة وجوجة dhegeysanaya hadda dersiga iyo dhammaan طلبات شيخنا ومفيدنا الشيخ محمد خاشع. waxaa walaalaha oo idaarada barnaamijka ay iga codsadeen barnaamij ku saabsan mahaaraati tacallum adhaati inaan wax ka idhaahdo. runtii mawduuc qayim ah oo sidiisa muhiim u ah, ka hadalkiisuna aanu badnayn, laakiinse wax ku agdhow oo qaababka ka duwan looga hadlo. waxaan isku dayi doonaa biidn illaahi tacaala inaan soo koobo waqtiga oo kooban awgiisa amin dambena ah. waxaan rabaa inaan baraarujiyo qodob ku saabsan mahaaraati tacallum adhaati. waxaa laga yaabaa inuu mawduuc yani taqriiban fadfaad ah noqdo oo waasica. gaalibkiisa waxaan is iri yani qaab mahaaro cilmi ah bay noqon karaysaa weeye, laakiin hadda kitaab mucayan ah oo aan hadda garanaya ama aan leeyahay kaasoo kale baa taqriiban yufiid fi hada almawduuc ma jiro. لأن غالب من يتحدث في مهارات التعلم الذاتي وحوي علماء النفس التربوي، علم النفس التربوي، علم غير هذا dadka noocaas oo kale ah wax ka qora cilmi nafsi tarbawi oo culumta cilmi ijtimaaca hoostaga ah waa غالبا waa yani qaabka wax u qoraan culimada ama masaarka hadda inuu ku jirno dhammaan talabada cilmiga baranaya ama shareecada ama luqada carabiga ahi ma aha. waxaa laga yaabaa marka mufradaadka isticmaalayaan iyo asaaliibta ay usoo bandhigayaan afkaarta mawduuca ku saabsan inay ka duwanaato isluubkii uu tacawuday ama uu bartay taalib cilmiga ku mashquulsan culumta shareecada ama luqada carabiga ah. waxaan isku dayaa marka inaan kasoo dego meesha ay iyagu wax ka qorayaan oo qaabkii aynu naqaanay oo culimadeenna muslimiintu weligoodba ay wax u qori jireen ama u dhiirigelin jireen in insha allahu tacaala wax ka idhaahdo, anigoo gaalibka ka soo qaadan doona biidn illahi caza wajal intii aynu naqaanay ee culimadeenna muslimiinta sidiisa rabiba aslan inaan u baraarujiyo oo ah cilmiga iyo barashadiisa, gaar ahaan cilmiga shareecada islaamka la baranayo iyo luqada carabiga ahi ma aha wax fi lqarni alkhamis cashar alhijri aynu hadda baranayno ama aan laynagu horreynin. waa cilmi soo jireen ah, culimo waaweyn oo inaga horreeyey, inagana cilmi badnaa, inaga aqoon fiicnaa ay soo barteen. waxyaabaha muhiimka ah oo waagan aynu u baahannahay waxaa ka mid ah inaynu istikhlaas ku samayno, soo koobno, ama aynu ku samayno miiris oo aynu soo hufno qaabkii ay cilmiga culimadaasi u baran jireen, innaga oo markaa turuqoodii iyo manaahijtoodii iyo qaababkii cilmiga u baran jireen ka dhiganayna hadda turuq tacallum. tajaaribtoodii iyo khubraadkii ay lahaayeen oo ku saabsanaa barashada cilmigana ka dhiganayna nibraas aynu ku baranno cilmiga. lana gaalibka waxyaabaha ugu badan oo laga qoray mawduuca ku saabsan sida cilmiga loo barto waa tajaarib mucaasira oo rag culimo ah oo mucaasiriin ah ay qoreen. waxaa igala muhiimsan culimadii mutaqadimiinta ahaa, taraajumtoodana waa qoran tahay, sida wax u baran jireenna waa qoran yihiin. walow hadday suuro geliso ay aad u fiicnaan lahayd ba talabatu cilmiga diraasaadka akaademiga ahi wadaa inay ku sameeyaan masaa'ilka noocaas oo kale istikhlaas oo ay wax ka qoraan. waxaan rabaa inaan idhaahdo ka muqadama, barashada habka cilmiga loo baranayo waa sharti si cilmiga loo barto, ama waa sharti si cilmiga si fudud loogu barto. waayo cilmigu qofku waxaa laga yaabaa hadduusan manhajka raacin inuu barto, laakiin muddo dheer kadib uu barto. waxaa kaloo suuragal ah inuusan baranin. marka shardigu haddii aanu jirinin mashruudka lama helayo gaaliban, ama waxaa laga yaabaa inuu tacaduro ama waqti dambe oo uu qofku kusoo rafaaday inuu gaadho. waa halka ibnu cashuur kitaab qiimo badan oo wuxuu leeyahay la yirahdo alaysa subxa biqariib, leeyahay muqadimada hore hadal qiimo badan oo ilaa 2 sadar ah oo carabi ku qoran. uu leeyahay inani calaa yaqiinin marka carabigu ma baan akhrinaya leena waqti waxa laga yaabaa inuu saamaxaynin mafhuumka guuda hadalkiisana waa sheegaya.
wuxuu leeyahay inanii calaa yaqiinin أني لو أتيح لي في فجر الشباب التشبع من قواعد نظام التعليم والتوجيه لاقتصدت كثيرا من مواهبي ولاكتسبت جما من المعرفة ولسلمت من التطوح في طرائق تبين لي بعد حين الارتداد عنها haddii aan markaan dhalinyarada ahaa heli lahaa wax fara badan oo aan markii dambe helay qawaacid nidaam tacliim ku saabsan wax badan baan soo gaabsan lahaa waqtiga yani waqti badan oo igaga baxay meel aanan munaasib ahaynba abulaal alcaskari wuxuu leeyahay كلمة أدو قيمة بدن رنتي قاعدة وكلا أهولية المقدم إذا أخر والمؤخر إذا قدم بطل نظام التعليم علم قوة وحولية هيكل تراتبي أهو كلا دلانية وبيتبمت كدو لساني هاي مركا هدي كي حق هورا تشري حق دنبرا لغو كي حق دنبرا تشري حق هورا لغو ده النظام كي وحلو براني يوردن يا بوريا ولذلك ابن بدران الحنبلي صاحب المدخل كتابك وحكو شيء ardaydu qaaliban in ay cilmiga waqti dheerna geliyaan isla markaana wax xasiila oo cilmi ah oo fiican aysan helin laba sababoodba ugu waaweyn buu leeyahay labada sababoodna mid waa midka ayba ku fadhido muxaadaradan dhan iyo kuwa la midka ah midna waa qodob aynu ka hadli doono biidnillah sababkooda wuxuu ka dhigayaa cadmu dhakaa alfitri inuusan qofku sidiisa ula ahayn qof yani clever ah oo faham fiican ama caqligiisa iyo daakiradiisa iyo wax fahamkiisa iyo xifdigiisa aanu fiicnayn iyo qodobka labaad waa inuu turuq tacliim jaahil ka yahay waana qodobkan hadda u jeedna weeye marka taalibu cilmigu biqadri ma uu baranayo cilmiga masaa'ilkiisa inuu u barto wax ka mid ah cilmiga qaabka loo baranayo meesha markaan leeyahay wax ka mid ah qaabka cilmiga loo baranayo waa qodob muhiim ah sababtoo ah inuu barto qofku waxa cilmiga loo baranayo oo yani qaabka cilmiga loo baranayo afwan inuu barto 100% suuro geli mayso ilaa uu cilmiga barto sababtoo qofku يعني غالبا تجاربته iyo khubaraadka la siisiyo ku saabsan sida cilmiga loo bartaa wax tajaarib shakhsiya qofku wax uu isagu intuu tijaabiyay oo markaa kuu sheegayo waxa uu markaa tijaabiyay oo kuu sheegaya waxa laga yaabaa in adiga aanay ku habboonayn waayo dadku isku dakaa maaha furaska ay haystaan min xayth الزمان min xayth المكان min xayth المنهج min xayth حتى waxa la yiraahdo طريقada wax loo baranayo min xayth العوائق المحيطة بالإنسان waxyaabaha qofka bini aadamka ay ku hareeraysan waxa laga yaabaa inay suuragal ahayn marka adiga waxa laga yaabaa marka inay munaasib ku noqoto tajribadan uu qofkani soo qaatay waxa laga yaabaa in tajribadaasi munaasib ku noqonin wadaalika wax ka mid ah inaad barato inta kalena marka adigu aad kasbato amaliyadan tacliimta aad ku jirto muddada qaadanaysa 2 sano 3 sano markaad baranayso cilmiga marka koowaad aad bilowdo iyo 2 sano markaad dhiganayso isku mid ma tihiin يعني marka koowaad waxaad u baahan tahay sida qof indhala inuu qofku ku xeeyo laakiin marka dambe indhaha in yar baa ku furmaya marka muddo ku sii jirtid waxba ku sii furmaya marka dambe indhaha si waxan u kala qaadaysa adiga ishagi karayo wax isgaarsiinaysa meel adigu ishagi karayso marka inuu qofku boqolkiiba inta isku mashquulinin yani wax fara badan isku mashquulinin in uu ku mashquulsanaado manhajka iyo tajaaribta shakhsiga ah ee dadka kale leeyihiin cilmiga loo barto iyo muqaddamaadka ku saabsan sidee cilmi loo bartaa sidee quraan loo xifdiyaa sidee luqad loo bartaa sidee saan loo galaa sidee loo fahmaa sidee loo xifdiyaa sidee wax loo qoraa sidee loo taalifiyaa su'aalaha noocaas oo kale ah dadka qaarkood waxay markay ku farabataan waxa laga yaabaa hadhow inay ku samayso rahba wixii inuu kaga sameeyo yani cilmigii caadiga inuu kaga mashquulo muqaddamaadkii cilmiga noocan oo kale ahaa oo marka qofkii hadhow cilmigii uusan baranin ku mashquulsan yahay oo kaliya siduu manhaj u dejin lahaa وهذه تقريبا مشكلة أدوية وطلبة علمي قاركود هاي ستوي مهارات التعلم الذاتي wuxuu ka kooban yahay 3 kelmadood oo laba israacsan tahay midna gooni tahay maharaat oo gooni ah iyo tacallum الذاتي oo gooni ah tacallum الذاتي waa u imanaya laakiin maharada waxaan oran karaynaa taqriiban waa qofku wax muhiimad ah oo rabo inuu qabto si fudud inuu qabto wax uu rabo inuu qabsado wuxuu doono marka ahaado maharaadka waxay gashaa majaalaad kala duwan majaal cilmi ah oo nadari ahna waa gashaa majaal amali ah oo tatbiiqi ahna waa gashaa qofku waxa laga yaabaa inuu maharo ku leeyahay mesela dhismaha inuu sida geera loo waraabiyo ama ariga loo waraabiyo inuu maharo fiican ku leeyahay lacagta iyo sariflaha inuu maharo fiican ku leeyahay inta in la eg buu qofku wuxuu maharo ku yeeshaa cilmiga iyo barashadiisa marka qofku waa waxa keena qofka inuu u fududaato barashada cilmiga sida qofka mesela xoolaha waraabinaya ay ugu fududahay inuu xoolo waraabiyo waxa laga yaabaa adigoo xoolo hore u waraabin haddii lagu yiraahdo maanta xoolo waraabi darka ceelka markaa soo istaagto wadaanta aad ridato marka koowaad waxa laga yaabaa inaad darka ku soo saarto iskala bacifo oo iskala soo rafaad laakiin marka dambe waa soo saaraysaa
laakiin waxa laga yaabaa inaad mar labaad u celin karaynin يوم ثاني يوم ثالث هداد كو celceliso marka dambe waxaad gaaraysaa inaad adigu dhowr hormo oo geed ah waraabin karayso cilmiguna waa sidaas oo kale marka aad wadadiisa saxan aad garanayso iyo qaabka loo qaado qaabka kitaab loo khulaaseeyo مثلا qaabka loo ikhtisaariyo jadwal iyo taqsiim loo sameeyo loo xifdiyo marka aadan garanaynin way kugu adag tahay marka hore laakiin macal waqti markaad isbarto waxay imanaysaa inaad mahaare hesho mahaare aad wax ku xifdin karayso mahaare aad wax ku fahmi karayso mahaare aad mutaalacadaadu kugu fududaan karayso mahaare aad ku diyaarin karayso darsiga taxdiir aad ku samayn karayso taas marka waxay keenaysaa inay fududaato mahamadii aad u socotay oo ahayd inaad cilmi barato marka mahaaradu wixii wax kuu fududeeya ayaa la yidhaahdaa mararka qaarkood waxaa laga yaabaa mahaaradu inay noqoto waxaan wax fududaynaya natiijada uu ku gaarsiinayo waayo qofku marka uu wadooyinkan wax fududeeye helo waxaa imanaysa marka wixii u fududaaday inuu kasbado iktisaab almacrifa cilmigii aqoontii inuu helo cilmigii aqoontii markuu helo marka darajaad buu joogaa waxaa laga yaabaa marka dambe inuu gaaro yani macal waqti marka uu mahaaraadkiisii haysto macrifadii oo taamana haysto uu isku xidho marka mahaaradii iyo macrifadii oo uusan intuu mahaaradii helay cilmigiina uusan iska daynin ama uusan bilaa mahaaro yahay oo cilmigii uu ku mashquulsan yahay laakiin labada markuu isu geysto hadha waxaa imanaysa wax la yidhahda almalaka marka malakadu waxa weeye marxalad dambe oo qofku cilmigii uu isaga iyo dhiiggiisa cilmigu raacayo oo noqonayo sidii culimada qaarkood maalan la odhan jiray hebel haddii jirkiisa la jeexjeexo oo kale waxaa kasoo di'i lahaa fiqigiiba xagga booskii dhiigga kasoo di'i lahaa yani suu fiqiga u yaqaano waxay odhan jireen culimadu fiqhu nafs ama fiqhu lbadan ama fiqhu tabci yani qofku inuu an yatatabaca bilcilmi inuu cilmigu u noqdo sida tabiico dhaqan sijiye iyo wax lamid ah marka kaa dambe oo malakada ahna culimada qaarkood waa ku iطlaaqaan mahaaro lakin inagu kan hore aynu sheegnaa التعلم الذاتي تعلمك وقرننا وحبرشة الذاتي وحوي قفكو إنه يسوي وحبرته مركا التعلم الذاتي وحوي قفكو إنه يسوي شكانته يسوي وحبرشة تقريبا عملية التعليم تانو نقانو وحوي إنه قفكو مركو وحبرنا يوحلبارو إذا وحوضو إن وقت لو قرشي إن لو قرشي بوسكو وحكو برانيو منهجكو قادنيا لو قرشي سيدو كلا وعدة وحبرنا لو قرشي وسيد أصل كانوا هذا نقانو ama jaamacaadka ama macaahidda ama madaaris ama mu'asasaadka kala duwan ee waxbarashada ka jira tacallum addaati isagu waxaa laga yaabaa inuu sidaa ka duwan yahay oo isagu taqriiban qofku isagaa iswadaya waxaa laga yaabaa mararka qaarkood culamada nafsi tarbawina waa tilmaamaan inuu qofku yani bisuuratin aw biukhra mu'asasada dhexdeeda ku sameeyo tacallum daati isagoo mu'asasa cilmiya jaamacad ama iskuul ama macahad ku xidhan inuu haddana tacallum daati ah uu sameeyo marka taqriiban taasoo kale hadda midkan ka hadlaya ma aha waxaweye midku qofku isagu iswadayo oo wax mu'asasa haba yaraatee oo tarbawi ah cilmi barasho ah aanu ku xidhnayn isagu qofku inuu naftiisa ictimaado marka waxyaabaha fududeeya inuu qofku isagu wax isbaro qofku inuu markaa wax isbaro ma jiri jirtay oo wax waagi hore la yaqaanay oo culimmada muslimiinta ahi markay wax baranayaan qofku inuu isagu wax isbaro ma jiri jirtay mise waa la wadi jiray qofka waxaan leenahay laba marxalo baa jiri jiray aqoonta marxalada koowaad waxaan odhan karaynaa marxalat الtalqiin marxalada labaadna waxaan odhan karaynaa marxalat alwaasil ama marxalat alwusuul oo kale maalan si isugu munaasabeen marxalat الtalqiin iyo marxalat alwusuul bay kala ahayd marxalat الtalqiin waxa weeye qofku inuu ku jiro maraaxishii koowaad ama heerarkii koowaad ee aqoon barashada oo uu yahay maalan da sagaalaad oo kale ama sideedaad ama toddoba iyo wixii ka weyn ama hadda qof cusub oo cilmiga bilaabay da'diisu haba weynaatee ha ahaatee markaas qofka noocaas oo kale ahi sida carruurta yara malcaamadaha aynu geyno ilmaha yar haddaynan malcaamad geynin alifka aan lasoo barinin ama aynan macallin u keenin oo alifka uusan barinin isagoo alifka isma bari karayo marka marxalad talqiin weeye wahaakada qofku markuu cilmi kasta uu bilaabayo oo hadhow marka marxalada hore uu soo dhaafay alifka ee soo gaadho maalan inuu fiqi bilaabo ama naxwo bilaabo ajurruumiga hadduusan aqoonin ilaa ajurruumiga cidi barto isma bari karayo marka hadi marxalad talqiin marxalada labaad waxa weeye marxalad alwusuul qofku markuu cilmiga in fiican soo qaato uu soo gaaray heer uu isagu iswadi karayo weli muusan gaarin caalim muusan noqonin sheekh muusan noqonin mufiid heer uu isagu mufiid gaadho weli waa mustafiid yani isagaa weli cilmigii baranaya laakiin wuxuu kaga duwan yahay qofkii hore isagu wuxuu gaaray heer uu iswadi karayo oo uu cilmigii ka kaaftoomi karayo in uu sheekh raadsado ama sheekh hoos fadhiisto maalan ama uu ka kaaftoomi karayo cid u dejisa maalan haddaanu xataa ka kaaftoomi karaynin inuu cilmigii sheekh ka qaato uu ka kaaftoomi karayo in loo dejiyo habkii wax u baranayey ama ha ahaato kitaabku wax ka baranayey ama ha ahaato xilligu wax baranayey boosku wax ku baranayey iyo qaabku wax u xifdinayey u baranayey qofkan qof iswadi karaya uu yahay culimmada muslimiintu markaa weligay sidii la yaqaanay qaybta dambe oo ah
qofku markuu soo gaaro inuu isagu iswadi karayo oo uu mustafiid yahay culum fiicanna soo qaatay welina wax u dhiman yihiin markaasoo kale qofku inuu isagu iswadi karayo wax dhiba meel ahaan jirinin uu ka kaaftoomi jiray marka waxyaabaha qaarkooda wadayaal ah wadayaashu marka macalinka ugu muhiimsan ama sheekha casharka dhigaya ugu muhiimsan waxay leeyihiin waxaana jira waxyaabo kale oo mu'asasaadku ay ka mid yihiin waxaa ka mid a مثلا ibn carafat almaliki waxaa loo tiriya 3 bayt oo cajiib ah wuxuu leeyahay idaa lam yakun fi majlis darsi nuqtatun بتقرير إيضاح لمشكل صورة وعزو غريب النقل أو حل مغفل أو إشكال نبدته نتيجة فكرتي فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد ولا تتركن فالترك أقبح خلتي هذا مجلس كي درسك كويد وحياها فرها بدن وشيء إن هذا نقطة لغو تقريرنا أيو مشكلة إيضاحين أيو غريب لغو تيرنا أيو ماشي نقل جيسا وكسبنا وحد نار لفرفور أيو إشكال كي أفكارتو كانت لفرفور أيو وحياها لمتكا هذه مجلس كي إنت أدن كفائدين سيتقو مركا أدو وانظر لنفسك واجتهد ولا تتركن فالترك أقبح خلتي ماشي مركا روا وحوي أنت وليه معرفة أحد كتب توفي عن مالكي ذا لقى قري فقه مالكي مختصر عنه هو حكي مختصر من عرفة أو فقه علم الكلام مختصر في عن بوليه المختصر الكلام اللي له مختصرات كي أما أنا علم الكلام كمذا يعني ونن عالم هوية معها يعني معها يعني مثلا شاعر أو خلاص يعني علم الكلام أنا قولي لكن ونن عالم أو حليه مركا وانظر لنفسك واجتهد وأنت نصعد أدوق نفت هذا وددال يعني خلاص أدوق سيدا وددال وعلم أكبر اسود ويا معي هذي لكن هو مرحلة الوصول ومركو قفكو قاري إنه مجلس وحبك فائدين إشكال كهذا يمد حوية واجه رسالة سواجرت لكن هذا حاليا إنه تاجنا هي إشكال كتير وحوية تذكر غالبا أما طلبة علم الفرابدن يجوا مرحلة التلقين مرية أو مرحلة الوصول إسولتان كي أنقارين إنه قفكي تعلم ذاتي يسوق صميانيو طبعا أسباب إليهم دور أهو إلى تقريبا تدبس سببات أنه بكان ويا فكري عن السنة تدبس سببات وقاري كريا qofku inuu isagu iswado maxaa keenaya waagan isagu wali wasuulkii ama meeshii la rabay inuu gaaro aan gaarin waxaa ka mid ah مثلا asbaabtaasi qofku meesha uu joogo inaanu helin مثلا hagihii asaasiga ahaa oo cilmiga bari lahaa oo sheekh ah waxa laga yaabaa غالبا مثلا qofku inuu joogo meel tuula ah uu ka waayo cid isaga ka aqoon fiican ama cid kale uusan joogin waxa yaabaa qurba inuu joogo oo siduu sheekh ku helaaba ay iska adag tahay يعني توفر الشيخ إن إشكال وقالوا تاس وحكينا سأمرك قفكي علمي وشعلي هاي ولي مرحلة التلقين موسى دافين وعربية وحبوك قرانيا علوم أساسيات وحبوك قرانيا لكن سوري موسى قارين هرو سوى كريو أو سوى كتاب كدوران كريو شيخ كدوران كريو وحليرا هذا منهج كدوران كريو وحبها سوى كريو هذا مع ذلك عدي وذي لهاي ما هيو تاس وحكينا سأمرك إنه سوى إسواله أنت أودي سا waxaa qodob keeni karayaa طريقadii saxneed cilmiga loo baran jiray inuu qofku waayo waxa laga yaabaa mashaayikhdi waa joogaan ama sheekh kamid ah mashaayikhdi cilmiga bari lahaa uu joogaa laakiin طريقadii saxneed oo culimada lagu yaqaanay inay wax u baran inaan jirinin مثلا ardaygu hadduu faahim yahay مثلا in fiqi oo kale markuu baranayo waxa jira silsilad caan ah oo fiqiga lagu barto ma haysto silsiladii cid u barta waxa laga yaabaa nin sheekh oo fiqh muqaaran guud akhriya isaguna ardaygii waa mubtadi wuxuu rabaa wax safiinaha uga bilaabo hore u wado ilaa manhajii irshaad gaarsiiya wuxuu rabaa qof ajruumiga uga bilaabo hore u wado ilaa khulaasada gaarsiiya marka hadduu waayo مثلا mashaayikhdi waa joogaan laakiin ma hayo waxay keenaysaa marka qofkii isagu inuu marxaladan iswaditaanka ah uu bilaabo tacallum daati waxaa ka mid ah waxyaabaha keenaya fududaynta teknolojiyadda cusub meediyaha noocyadiisa kala duwan ama socialka ha ahaado ama websiteska iyo waxay hore u naqaan ha ahaato fududaynta faraha badan waa ay keentay waagi hore waxa laga yaabaa طالبو cilmiga jooga magaalo inuu inta culimada magaaladiisa ah iyo waagi cajiraduhu xataa ay soo bixin طبعا ishkaalkaas uu taagnaa laakiin markii cajiraduhu soo bixeen inuu cajilada helo oo laga yaabo cajiladiina lacag ka xigto laga yaabo marka qaar kood in uu waayo cajiladu aan laba soo gaarsiin waxyaabaha la midka ah marka waagi hore waxa laga yaabaa qofku inuu ku koobsado cid la joogto oo kali ah inay wax barto oo cilmiga uu hoos fariisto hadda wuxuu haystaa khiyaaraad aad u fara badan oo ka duwan wixii la joogay waa wax keenaya oo fududaynaya qodob keenaya oo fududaynaya weeye inuu qofku isku dayo ama ijtihaad iyo dadaal ku bixiyo sidoo isagu isu wadi lahaa wana taqriiban ardayda aad uga maqashaan tabriiraat ah مثلا marka ardayga la weydiiyo maxay xalaqaadka cilmiga u xaadir laadahay yani cilmiga hadda waa fudud yahay mobilkii ugu jira waa dhegeysanaya ama kitaabkii waan ka akhrisanaya kitaabkii PDF aan haystaa
marka tabriirka noocaas oo kale ah waa wax keenaya teknolojiyadu keentay weeye qodob keenaya marka qofku isagu tacallum daati inuu ku dhaqaaqo waxaa ka mid ah ishkaalka ay keentay daraasa akaademiya waxaad ogtihiin daraasaadkan akaademiga ama akademiga ahi habkii culumta shareecada culimmada muslimiintu ay u baran jireen hab ka duwan ayay keentay qaalibanna reer galbeedka inooga timid daraasada akaademiga culumtan aynu u naqaano culumta xayaatiga ah ama culumta maadiga ah u naqaano baana lagu bilaabay kadibna culimo kale oo ijtihaaday ayaa waxay soo dhexgeliyeen habkii loo baranayay akaademiga ahaa culumta shareecada waxay keentay marka wax fara badan inay daciifiso habkii loo baran jiray culumta shareecada haddaad marka u fiirsato jaamicaadka haddaad u fiirsato macaahidda haddaad la muqaaranayso labadaasi nitaajkay soo saarayaan iyo midhaha kasoo baxaya habkii nidaamka caadiga ahaa ee culimmadu usoo bixi jirtay wax loo baran jiray dacfiga uu marka ardaygu ka dareemayo waxbarashadiisii akaademiga ahayd oo laga yaabo maalan ardaygu markuu jaamacad dhiganayo in uu qaadanayo maalan mukhtasaraad kooban mudakara kooban kitaab kala barbaran oo jarjaran oo marba mid inuu ka qaadanayo yani waxaan isku kabkabnayn waqtigiina uu ku dheer yahay oo laga yaabo in wax uu ku qaadan lahaa tusaale ahaan sana waaxida maalan wax sanad keliya uu ku qaadan lahaa inuu ku qaadanayo 3 أو 4 سنوات مثلا ابن مالك oo kale ibn maaliga yani ardaygu hadduu dadaalo sheekhiisa oo toosa helo ama cajladiisa dhegeysto muddo sanad ka yar buu ku dhammayn karaya hadhowna xifdigiisa iyo takraarkiisa iyo tathbiitkiisa inta sanadka ka hadhay ilaa bar kale oo sanad barkii oo kale uu ku dhammayn karaya uu ku sugi karaya yani marxalad itqaan buu ku gaari karaya muddo sanad iyo bar gudaheeda hadduu si wacan waqtigiisa u maareeyo ishkaalka ugu weyn oo daraasada akaademiga keentay waxa weeye ibn maaligi ardaygu waxaa loogu jarjarayaa 3 sano ama 4 sano loogu jarjaraya 4 sano markaa yani qofkii waxaa ku dhacaya tashatut cilmigii inuu ka kala tago marka ishkaalka uu keentay daraasa akaademiya waxa ardaygii markaa maadaama dhinacan dacfi ka dareemayo iyo liidasho inuu aado dhinac kale isagu inuu iswado ah oo inuu isagu sidiisa u faa'iideysto oo wax u barto waxaa laga yaabaa inay keento qodob ku saabsan dhaqaalaha waayo dadka hadda waxbarashadii waad ogtihiin waxaa laga wada dhigay yani waa adag tahay hadda barnaamijtan naafica ah oo culimmadeenu inoo soo saareen iyo xalaqaadkii iyo waxyaabaha maahaane laakiin cilmigii kaloo dhan hadda waa lacag weeye waxaa laga yaaba marka qaarkood inuu weliba lacag wareera noqoto wixii bilaashka ahaa waa dhammaaday cilmigii barashadiisii 70% waxaa loo raray waxbarasho akaademi ah oo macaahidii jaamacadii iskuulla leh iyagiina markaa bilaash lagama dhigina waa lacag weeye cid dacminaysa iyo dowlad dacminaysa oo khaasatan culum shareecada barashadeeda ma jirto marka dadkiina isku mid maaha wadcigooda iqtisaadiga waxa laga yaaba qofku inaanu awood ba u lahayn inuu jaamacaddan iska bixiyo jaamacadda 4 bilood ama sanadkii ama bil kastaba lacag laga qaadayo ma awoodi karaya qofku waa faqiir wey qofkii marka waxay ku keenaysaa wadcigiisa iqtisaadiga ah inuu isagu iswado waa sabab kale oo keeni karaya waxaa ka mid a oo qodob isaguna meesha ku jira inkasta oo culumta shareecadu aanay u badnayn culumta kale ay ku badan tahay culumta shareecadana laga yaabo qaarkeed in laga helo talbiyat xaajat suuqu muxuu u baahan yahay qofku waxaa laga yaaba marka qaarkood inuu u baahan yahay inuu kasbado ama inuu barto mahara min almahaaraat ama cilm min alculum laajli inuu maalan shaqo helo inuu helo maalan wuxuu yani yaktasib risqiisa uu kasoo saarto waxaa laga yaabaa gaaliban culumta shareecadu tanoo kale inaysan lahayn culumta kale u badan tahay lana culumta o dhanba waa gashaa muxuu ahaa tacallum daatigu marka dariiqadan soo korodhay oo tacallum daatiga ah ama dariiqada guud ahaanba qofku inuu isagu wax isbaro waxaan ilaa 7 dhinac oo kale waxaan odhan karaynaa haddaynu ka eegno waxay leedahay miise aad u fiican oo qofku yani way ka fiican tahay dariiqadii kale oo nidaamiga ahayd qofku inuu wax ku xidhnaado ah waxaa ka mid a maalan qofku qodobada ugu muhiimsanna ah xorriyada uu dareemayo qofku markaad dhiganayso waxbarasho habaysan markaad dhiganayso oo ama jaamacad ama iskuul ama wax lamida ah waxaa laga yaabaa inaadan adiga ku taxakumi karayn ama maamuli karaynin waqtiga waa lagu xadidaya darsigaad qaadanaysa waa lagu xadidaya macalinka waa lagu xadidaya zamanka iyo waqtiga waa lagu xadidaya makaanka waa lagu xadidaya yani xataa maalan turuq taqiim sida lasu qiimeynayo qaabka loo qiimeynayo ardayga waa loo xadidaya taxdiidka faraha badan ee ardayga waxaa laga yaabaa dariiqadan hadda qofku markuu isagu iswaday wax isbarayo way ka duwan tahay marka qofka tan isagaa xukuma waqtigiisa darsigiisa sheekhiisa iyo waxoo dhan ba isagaa xukumaya xorriyada marka uu qofku dareemayo waa nooc miise ah oo dhinac marka laga eego dabcan dhinaca salbiyaadka hadha uu qodob kale ishkaal ay keeni doontaa laakiin
dhinacan hadda markaanu ka eegno inuu qofku isagu xorriyad noocaas oo kale dareemayo oo markaa wixii uu jeclaa uu qaadanayo. adiga markaad class fadhido waxaa lagaa rabaa xisaska mucayanka ah inaad buuxiso, darajo la yaqaanana inaad keento. adiga markaa maada aad jeceshahay oo rabto inaad barato iyo maada aadan rabin inaad barato aadan jeclayn, labadaba waad ku khasban tahay inaad gasho. waa hada ishkaaliya. dhinacan marka waxay miise uga leedahay iyadu taas ma laha. waxaa ka mid ah oo qodob labaad ah, qofku noloshiisa kaluu la socodsiin karaya. wuxuu maamulayaa maadaama qofku yani isagaa maamulaya qaabka uu dejinayo, noloshiisii kale iswaafaqaysaa. qofku maalan haddii waxaa laga yaabaa inuu nolol yani ishkaal kaloo adduunya uu ku furan yahay ama culays kaloo adduunya uu ku furan yahay, ama ha ahaato in maalan family ka dambeeyo oo uu shaqaynayo, ama ha ahaato ishkaal kale oo si uunu haysta. qofku markuu isagu wax baranayo isagu wax iswado wuxuu la maarayn karaya noloshiisii iyo waxbarashadiisii wuu isla maarayn karaya. baynamaa ta kale ay noqonayso inaad uga go'do waxbarashadii aad gelaysay awgeeda waxyaabihii kale noloshaada adduunya aad maaraysan lahayd, walidaalika halkaa uu kaaga yimaado dacfi dhinacii arrimaha kale oo adduunya aad maaraysan kari lahayd. qodob saddexaad oo ah xagga dhaqaalaynta iyo qodobkii hore aan soo sheegnay oo asbaabta kusoo sheegnay qodobka iqtisaadiga waa miisa weeye. qofku inaanu kaga baxaynin dhaqaale inta ugu talagalay maahaane, ama inta markaa isagu qofku uu ku xukumayo. markuu awoodana uu wixii uu awooday bixinayo, markaanu awoodinna wixii aanu awoodin aanu isku takliifaynaynin. baynamaa waxbarashada kale aysan sidaas oo kale ahayn oo qofka dee la baaxinayo hadduu waayo maalin maalmaha ka mid ah. waxaa ka mid ah furuuqda fardiga inay fiiriso, sababtoo ah waxyaabaha ishkaalaadka waxbarashada akaademiga haysta ma maqsuud ba mise maqsuud maaha. ragga qaarkood waxay ku doodayaan oo ضد الأكاديمية ama ضد الدراسة الأكاديمية in ay maqsuud tahay oo weliba markii waxbarashada akaademiga oo habkan kalaasyada loo fadhiyo ee dadka manhaj mucayan ah waqti mucayana boos mucayana loo qabanayay. ana u malaynaya meeshii taqriiban ay ka bilaamatay waxbarasho noocaas oo kale in ingiriiska ahayd. waxay ku doodayaan in loogu talagalay dadka in laisku qabto si suuqa hadhow aan loo helo dad yani mustawaha dadku isku wada mid maaha. ilaahay dakaagooda isku wada mid kama dhigin. marka adiga markaad ku jirto kale kalaas waxaa laga yaabaa inuu fadhiyo qof mustawaha dakaagiisu aad u fiican yahay iyo qof aad u hooseeyo. sideedabana haddii dadi wada socdaan ama waxa wada baranayeen ama ha wada socdaan oo safar ha ku jireen, sideedaba qofka daciifka ahay waa amiirka safarkaa wada. haddii safar lagu jiro qof xanuunsado safarkaa cidi dhaqaaqi mayso waa la fadhiisanaya. marka kalaas marka la wada joogo qofkii kalafarka ahay oo dakaagiisu aadka u fiicnaa waxaa soo qabanaya qofka kale. waxbarashada noocan oo kalea sidaa maaha. qofka dakaagiisu aadka u fiican yahay wuu soconaya, qofka dakaagiisu aadka u hooseeyan in la eg buu qaadanaya. kii kale laakiin waxbarashada nooca kale oo akaademiga ama nidaamiga ah ishkaalkay leedahay waxa weeye labadii waxaa lasu qabanaya qof. marka waxaa laga yaabaa macallinkii hadduu kan siiyana kanaa ku dhiban, hadduu kan ilaaliyana kanaa ku dhiban. labadii marba midunbaa dhib qaba. waxaa qodob shanaad ah qofku inuu tamayus iyo nubuuq iyo soo bax iyo inuu qofku yani meel ka soo baxo, meel isgaadhsiiyo ama meel gaadho. waxbarashada noocan oo kalea baa lagu bartaa. sababtoo waa inagii sheegna qofka sideedaba markuu marxalatul usuul soo gaadho isagaa iswada, yani khalaas waditaankii wuu ka hadhaya. marka waxbarashada noocan oo kale waa waxbarashada hadhuu qofku tacamuqa cilmiga uu ku sameeyo oo cilmi yani calaa mustawa aad u fiican ah uu ku gaadho. culamada muslimiinta oo dhan iyo dhammaan qof kastoo waasil ah oo meel fiican gaadhay cilmi uu bartayna qof isagu isoo waday weeye. intii markii hore lasoo gacan qabtay wixii dambe isagu iswaday weeye. waxaa qodob lixaad ah waxbarashadani uga fiican tahay oo qodob aad runtii u muhiima ah. waxbarashada noocan oo kale qofku isagu iswado oo isbarayo qofka waxaa ku xidhan raqbo, yani waxa keli ah wadaya waa inuu isagu raqbada u dareemayo, jacaylka doonista uu isagu rabo weeye. baynama waxbarashada nidaamiga ah akaademiga waxyaabaha wada laga yaaba inay ka duwan tahay. waxaa kamid a maalan qofkii waxaa laga yaaba inuu waarid wado, waxaa laga yaaba shahaado uu rabo awgeed inuu wado, imtixaan uu ka baqayo ku dhicitaankiisa inuu wado, maalan macallin uu canaananayo ama maalan hadduuba yar yahay la dhangadeynayo inay wado. yani waxaa jira waxyaabo kale oo wadayaal ah oo qofkii ku khasbaya inuu waxbarashadii dhigto. laakiin waxbarashada noocan oo kale ahi qofka wax kaloo ku khasbaya oo aan ahayn inuu isagu jecel yahay waxan ma jirto. qofku hadduusan wax isbaraynin khalaas, hadduusan jeclayn waxbarashadu ka hadhaya. laakiin markood aragto qofku isagoo wax baranaya, dadaalaya, cashar xaadiraya, xifdinaya, isla markaana aan jirinin jiho mu'asasa ah oo ka rabta wixii, waxay ku tusinaysaa qofku inuu dadaalkiisa waana waxyaabaha ku tusinaya qofku hadhow inuu nubuuq cilmiga fiican gaari karayo. waxaan ku gabagabaynayaa qodobada miisaad ku saabsan
albert einstein odayga ahaa oo cabqariga ahaa طيب جميل waxaan ku gabagabeynaya qodobkan albert einstein maquulo laga soo naqliyo ma adri saxadeeda laakiin sidaas un baan ku helay waa la baari karaya wuxuu leeyahay التعلم المدرسي يجلب الوظيفة بينما التعلم الذاتي يجلب العقل qofku inuu mu'asaso wax ku barto oo qaab madrasi ah oo barto qofku inuu muwaddaf noqdo hadhow shaqaale noqdo un buu keenaya yani shaqo ku keenaya laakiin markaad adigu sidaada wax isu barto oo aad dadaal samayso caqli buu qofkii u ziyaadinaya waxaan rabaa halka marka dhowr jeer mu'asasa akaademi waxaan tilmaamay mu'asasaadka akaademiga daraasa akaademiya iyo waxbarashada qofku isagu wax isbarayo marka waxaa laga yaabaa in loo fahmo marka inaan iska horkeenayo labada waxbarasho waagan aynu hadda joogno inagu in waagan hadda joogno qofku inuu waxbarashadiisa akaademiga ah wato laakiin wax uu iswado qodobka ugu fiican la samayn karaya hadeer weeye hadhow maxaa ka dambayn karaya waxa ka dambayn karaya waa qodob kale oo isagu culimada u yaalla inay ka tashadaan waxbarashada noocan oo kale loo baranayo laakiin hadda isku wadku wax ay ku dhaanto ma garanayo waxaan tilmaamayaa intaanan u gelinin qodobada maharaadka iyo wax ku saabsan 3 qodob oo salbiyaad ah oo uu leeyahay waxbarashada noocan oo kale ah salbiyada koowaad waxa weeye daal iyo caajis iyo xaafiska oo yaraada bay waxbarashada noocan oo kale ahi ku imaan karaya waayo wixii qofkii markii hore wanageen yiri waxbarashada mu'assasada qofku wax ku baranayo wax wadaya oo aan ahayn raqabada kali ah baa jira haddii qofka raqabadiisa daciifo isagoo mu'assasada wax ku dhiganaya waxa laga yaabaa waxyaabo kale uu xeerinayo awgeed in waxbarashada uu sii wado laakiin qofku markuu isagu wax isbarayo haddii caamilkii raqabada ahaa yani jacaylkii iyo doonistii iyo wixii gubayay ee cilmiga uu rabay awgeesa inuu barto haddii aanu jirinin khalaas yani qofku ma sii wadi karayo waa joojinaya waxaa laga yaabaa markaa maca zaman haddaanu qofku taqdiya samaynin qodobka waa tilmaami doonaayo qofku isagu uusan isquudin oo uusan quudin doonitaankiisa iyo jacaylkiisa aqoonta uu jecel yahay waxaa laga yaabaa waxbarashada noocan oo kale inaysan sii soconin dad fara badanoo markaa waxbarashooyinka hadda akaademiga uga hadha anaa wax baranayo oo xalaqaad baan dhiganaya oo sidaanaan samayna cajiradaan dhegeysan maca zaman waxaan aragnaa kuwo fara badan oo ka mid ihi in ka mid oo sii wada waa jirta laakiin in badan oo ka mid ihi markay muddo yaroo kooban wax wadaan waa joojiyaan qaarkood marbay bilaabaan haddana waa joojiyaan waa bilaabaan waa joojiyaan kadibna waa ka wada tagaan marka ishkaalkaasi waa ka ugu weyn uu leeyahay waxbarashada noocan oo kale ah waxaa ka mid ah oo qodob labaad ah jihayntii aqooneed weliba marka marxalada talqiin qofku uu ku jiro hadduu yiraahdo anaa tacallum daatiya samaynayo sideeda wax isu barayo marba sheekhan doona raadsanaya marba kitaabkan doona raadsanaya waxaa laga yaabaa qofku inuu jiheeyihii aqooneed ee ilaalinayay habka saxan ee cilmiga loo barto isla markaana qiimeynayay aqoontiisa inuu meesha ka baxo markay ka baxdo ilaalintii habkan wax loo baranayo iyo qiimeyntii waxa la bartay labada qodob markay meesha ka baxaan macnaheedu waxa weeye waxa baxay jiheeyaha aqooneed hadduu baxo oo meesha ka baxo waxaa imanaysa qofkii markaa inuusan baranin cilmi saxan inuu baranin ama cilmiba baran waayo waana meelaha ay culimmadu odhan jireen marka maquuladii caanka ahayd oo laa ta'khud ilcilma min saxafiyin walaa min musxafiy cilmiga qof kutubta ka bartay ha ka baranin mushkiladda ugu weyn oo qofka haysto waxa weeye jiheeye aqooneed ma haysto walidaalika cilmiga waddadii saxnayd u mari lahaana ma garanayo wuxuusan kaloo garanaynin oo dhib ka qabsanaya hadhow isku xirxirka masaa'ilkan iyo wixii iska hor imanayay iyo shiiritaankooda ama tacamuqooda wax fara badan oo ka mida cilmiga inay iskaga hor yimaadaan ayib qodobka saddexaad aan ku gabagabeynayo qaybtan salbiyaadka waxa weeye cashwaa'iyada basharadan ishkaalkay leedahay waxa weeye waagan aynu weliba joogno oo teknolojiyaddu soo baxday waxaa laga yaabaa youtube-ka waxa ka buuxa cajilada cashara aad u fara badan telegram cashara badan baa ka buuxa googleka websiteyadiisi casharo badan baa ka buuxa facebook live mubaashir ah casharo badan baa soo gala kutubtii oo pdf oo aad u fara badanna qofku uu helaya waxaa laga yaabaa barnaamij cilmiya oo mutamayiz ah inuu helo sida dowladan sheekheena sheekhaashe iyo dowlooyin kale oo ama soomaali ama carabiba wado wixii markay saan oo kale isugu bataan qofku markuu macallin leeyahay uu ku xiran yahay oo cilmiga baraya waxaa laga yaaba inuu ku yidhaahdo taa jooji taana wad taana jooji taana wad sidaa wax wad inuu ku yidhaahdo laakiin qofkii markuu raqbo fiican hayo jacayl fara badan aqoontii u hayo uusanna haysanin wax wixii la nidaamiya isagu iswadayo ama sheekh uusan haysanin ama madrasa uusan haysanin wixii markay isku fara bataan
waxaa imanaya qofkii markaa inuu wixii ama isku dayo dhammaan inuu wada qaato ama uu dhan intay ku farabataan meeluu ka bilaabo intuu garan waayo uu sidaa kaga jeesto labada midkood hadduu isku dayo marka wixii oo dhan inuu qaato hadda waxa weeye man talaba alkulla fata alkull hadduu wixii qofka cilmi oo dhan isku daya hal mar inuu qaato wixii oo dhan ba khalaas yani wixii oo dhan buu ku deynaya haddii kale waxaa ku imanaysa sidii ninkii la odhan jiray khiraash takathirat addibaa'u calaa khiraashin falaa yadri khiraashun maa yasid khiraash nin reer baadiye ah buu ahaayo wuxuu soo qaatay warankiisii hootadiisii wixiisibu soo qaatay si uu usoo ogaarsado bal deerooyinka meelaha maraya marka deeroo intuu horey waayey buu geel iska hoos jiifsaday kadibna wuxuu kusoo toosay raxan fara badan oo deerooyin ah oo ag maraya sookicuu soo kacay markaa uu bahalkiisii cabaystay ama uu shiishkiisii hagaajistay falaadhi ayuu wuxuu arkay mid fiican oo hilibkeedu fiican yahay kadibna mid labaad buu arkay buu ka jeestay tii hore mid tii kasii fiican buu arkay mid tii kasii fiican intuu markaa midba mid falaadhi dhinaceeda u jeedinayay bay bahali carareen isagoo markaa waxba soo dabanin buu meeshii ka yimi mushkiladda ninkaa ku dhacday markaa waa maxay takaathur wixiiba ku farabatay markaa takaathurkaas wuxuu daciifinayaa go'aan qaadashadii iyo ku dhaqaaqii ku dhici iyo ku dhaqaaqitaankii buu daciifinaya waad aragteenoo tusaale fududoo hadda noloshiina caadiga ah haddaan siiyo marka aad maalan maalin ciid ah ama habeen ciid ah suuqa soo gasho dukaan weyn oo maalan haddaad iibsanayso oo kale ood wiil tahay khamiis iibsanayso dukaan gebigiisuba dhammaantii wada khamiisi ah haddaad soo gasho iyo dukaan ay yaalaan laba khamiis ama laba nooc oo khamiisya haddaad soo gasho 90% go'aan qaadashadu waxay badan tahay marka aad soo gasho dukaanka labada khamiis yaalaan sababtu waxa weeye يعني خياراتك محدود وأما كان قاضي أما كان قاضي لكن مركب وحي فربطان خياراتك وفربطانية حرقنا وحلي هذا إنتاس أو نوع وكلا دول إنتاس وكلا وكلا دول مركب مربى ميت مركب تكاثر كاسيبة دو حوي قان قاضي شدوا إيمان يسحد وروح على جيابا إنه دوخي كان عسوبه أتري هذا وروح وقاضي من يسعد سي مركب إشكالية الأسماء بعد هذا طريقة نوعا وكلا عي وحين وضع عن تهرتي إنه أرفقفك وتنبه waxaan rabaa inaan dhowr qodob si kooban uga tilmaamo biidnillah mahaaraadka ay tahay qofku markuu isagu iswado inuu xoogga saaro si cilmi fiican iyo aqoon fiican uu helo ma oranayo ama ma sheeganayo waxaan soo wado oo mahaaraad ah waxaan aqoon inuu yahay laakiin balqaabkan inuu u tartiibinaan haddii lahayd ma uun baad fiirin doontaan waxaana rajaynayaa badankiisa inay yihiin min baab waxaad garanaysid ma kuu sheegaa intana laakiin laba nooc mahaaraad ah oo aan rabo inaan qaybta dambe oo kelmaddan aan ka dhigo waxaan ka horreysiinaya waxa la yidhahda mucazizaat sideedaba khiyaaray cilmiga meesha doontid ka baro ama adigu isbar ama mu'asasad rasmi ah ka baro oo nidaam iyo akaademi ah sidaa doontidba cilmi u baro ama macahad ku xidhnow jaamacad xalaqo barnaamij cilmi ah oo internet ah ama sidaada isu wada sideedaba waxaa jira wax la yidhaahdo wax yacni shidaal oo kale ah oo cilmiga shidaal oo kale u ah oo qofku haddaanu haysanin uusan weligii cilmi baranaynin siduu doonaba hadduu u dadaalo waxaas waa waxaan markaa u bixiyey almucazizaat yani waxa qofka ku dhalinaya inuu xoojiyo barashadii aqoonta ku dhalinaya aqoontida hore u jiidaya taasi dhowr qodob baan ka tilmaamaya qodobka koowaad waxa weeye daaficiya xub alcilm qofku inuu leeyahay gubasho aqooneed daaficiya wax jiidaya oo cilmiga ku dhalinaya oo jeclaysiinaya waa inuu leeyahay الدافعية وحب العلم لبداس بندي waxay soo guda galayaan wax la yiraahdo wax qodob guud oo waxay soo wada galayaan la yiraahdo istidaad qofku waa inuu leeyahay diyaar garow aqooneed diyaar garowga aqooneed waa saddex nooc waxa jira wax la yiraahdo istidaad nafsi والاستعداد العقلي والاستعداد الجسمي qofku nafsad ahaan waa inuu diyaar u yahay aqli ahaan diyaar u yahay jir ahaan diyaar u yahay saddexda qodob baan iyo rakooban marka tilmaamaya nafsad ahaan qofku waa inuu diyaar u yahay maxaa laga wadaa waxa jira waxyaabo mashaacir ah oo qofka bini aadamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku abuuray شاعرت نوع عاصو كلاهي وإنه كوريو وداريو سيو علم في عنه حلو ابن تيمية رحمه الله تعالى بجاك استعراض وصد إليه يا مجموعة حلية النفس لها قوتان قوة علمية نظرية وقوة إرادية عملية فلا بد لها من كمال القوتين لمعرفة الله وعبادته لما أولاد بأقونت لاذا وحنا يعرف النفط لاذا علمية نظرية هي mid iraadiya camaliya haddii markaa rabo uu qofku cibaado iyo ilaahay azza wajalla barashadiisa inuu labadaba xoojiyo waxaa la mid ah markaa macrifatullahi subhanahu wa ta'ala azza wajalla nooc min al-ilm cibaadaduna waa nooc min al-ilm marka cilmi suu u barto waa inuu xoojiyo awoodaha naftiisa waxaa ka mid ah markaa kow xub al-ilm qofku waa inuu aqoontiisa jeclaysiiyo
waa inuu jecel yahay marka koowaad waana inuu isjeclaysiiyo labadaasi waa laba qodob midna waa xub tabiici oo ilahi subxana wajal qofka ku abuuro aqoon jacayl midna waa inuu isagu isku dhaliyo an yaktasiba alxub inuu isagu isku dhaliyo inuu jeclaado aqoonta marka ka ilaahay kugu abuuray marka laga yimaado isjeclaysiinta aqoonta isjeclaysiinaysa qaabab fara badan bay leedahay waxaa kamid ah maalan inaad culimada muslimiinta taraajumtooda akhriso ardayga dadaalaya inaad la saaxiibto inaad ku xidhnaato xalaqada iyo meesha cilmigu yaallo waxyaaba fara badan noocaas inaad fiiriso mustaqbalka iyo waxa aad rajaynayso oo marka uu kugu dhaliyo hadafka guuda mustaqbaliga ah inaad wixii sii jeclaato wuxuu keenaya inaad jeclaaso kutubta laga qoray ku dhiirigelinta ardayga inay ku dhiirigeliso cilmiga wax ka midana dib baan ka tilmaami doonaa inuu qofku akhriyo oo ku celceliyo marka isjeclaysiinta cilmigu waa qodob aad u muhiima xub alcilm waxaa jira maqaal kooban oo uu qoray mushaar shatri nin dhalinyaro sacuudiga jooga weeye marka waa laga yaaba inaad goob ka heshaan sidoo kale kitaab qiimo badan runtii oon dhammaantiin kula talinayo xagga dambe aan rabay inaan ka tilmaamo irtiyaad alculum la yidhahdo leeyahay kitaabka marka maqaalka koowaad boo taqriiban mawduuca kaga hadlaya qofkii u baahan markaa bal seebuu qofku cilmiga jacaylkiisa iyo awoodda sida uga qayb qaato inuu cilmi barto ha akhriyo waxaa ka mid a qofku himadiisa himmi sare inuu dhacdo meel sare inuu qofku ka fekerayo oo culwul himma waxaa ka mid a oo qodob runta culumul himma oo kale ardayda talabata cilmiga aad baa loogala hadlaya mar raba inaan tarkiis saaro laakiin qodobkan raba inaan tarkiiska saaro waxa weeye alithaara walqadab cilmiga markaad baranayso waa inaad cadho leedahay waa inaad leedahay waxa la yidhaahdo maxaan odhan karayaa yani xanaaq iyo cadho xanaaq iyo cadhada kama wado kii madmuumka ahaa waxaan ka wadaa kii qofka ku dhalinayay inuu waxa la yidhaahdo liido waxa uu hayo si uu marka u gaaro meel sare maalan haddaad aragto maalan daalib cilmi xifdisan ibnu maalik adiga luqa alcarabiyaad barataa ibnu maalik arday xifdisan baad aragtay ardaygaa ibnu maaligga xifdisan haddaysan kugu jirinin gubasho iyo cadho ah ama xanaaq ah sideebuu u xifdisan yahay ana aanan u xifdisanayn oo min baab alqibd ah min baab alxasadna aan ahayn booskaa uu gaaray gaadh xataa inaad qibdooto oo isaare iyo muxuu ahay naftaadu ay kacdo inaad gaadho meesha sheekhaagu maraya iyo meel kasii sarreeya yani qofku noocaasoo kale waxay ku keentaa in uu cilmiga barto horena uu usii socdo marka qofku culimmada muslimiintuna aad bay uga hadlaan waqtiga kooban awgeed waa iska daynayaa waad ka helaysaan kutubtaan tilmaami doono qaarkood waa laga yaaba inaad ka heshaan kacdoonka aqooneed ayib kamida maalan waxaa jiray alfarisi laba kasoo yaroo latiifan idin dhexgelinaya oo hawshan ku saabsan waxaa jira abu cali alfarisi maadaama luqawiyiin aad tihiin luqawiy mashhuur kitaab buu qoray idax la yidhaahdo marka taqriiban arju fi annahu fi cilmi luga wuxuu geeya markaa nin boqoraho markaa waagi hore culimmadu waa u geyn jireen waa u hadiyen jireen kutubtooda boqorada marka waxbaa lagu siin jiray marka qaarkood marka kitaabkii wuxuu u geeyey nin sheekhahoo ka mid ah waxaan leeyahay cafwan boqorkiibu u geeyey kitaabkii marka wuxuu intuu saa u eegay boqorkii wuxuu ku yidhi waxaynu naqaanin unbaa dee sheekh meesha kusoo qortay wax kaloo weyn maada keenin kitaabkii marka wadaadkii waa soo xanaaqay kitaabkiisan takmilaha la yidhahdo caanka ah buu qoray kadibna markuu u geeyey wuxuu yidhi sheekhii wuxuu soo qoray ata sheekhu bima laa yafhamuhu huwa walaa naxn sheekhu wuxuu la soo qoray noola yimid wuxuusan waxaan anaguna fahansanayn isaguna uusan fahansanayn labadeeda midna aanu fahansanayn xanaaqiiba marka wuxuu keenay inuu kitaab noocaas oo kale oo aad u adag u qoro xanaaqu ninka la yidhaahdo ibn almuqri abubakar ismaaciil ibn almuqri kitaabka irshaadka iyo cinwaan sharaf alwaafi iyo kutubtan faraha badan ee naqaana ee caanka ah rawd aalibka taqriiban uu ka mid yahay kutubtan badiica aadka u farsamaysan qoray saaxib alqaamuus markuu qaamuuskiisa qoray wuxuu u geeyey ninkii sidaanoo kale boqorka ahaa marka waxa lagu siiyey wax fara badan oo fiican marka waxaa baxday maquulo ah in yani wax cajaa'ib ah oo cid haba yaraatay isagoo kale qortay hore u qortay aanay jirinin in uu qoray faris abadi isagu marka taqriiban maquuladii noocaasoo kale iyo warkii soo gaaray ahaa xanaaqu ka xanaaqay wuxuu qoray kitaab la yidhahdo cinwaan sharaf alwaafi cinwaan sharaf alwaafi marka waa kitaab badiic ah bal internetka ku qora waad helaysaa isagoo pdf ah waa kitaab 5 fanni ah 5 fannina halka safxo iyo hal sadar kastoo ka mid ah safxooyinka kitaabku ka mid yahay waxaad ka dhex akhrinaysaa 5 fanni haddaad siduu sadarka loo akhriyo aad u akhriso waa fanni haddaad xarfaha koowaad isku darto waa fanni haddaad xarfaha u dambeeya isku darto waa fanni dhexda haddaad ka akhriso waa fanni
xarafka koowaad iyo xarafka ugu dambeeya hadda isku darto waa fan saasoo kale yani wax saa isugu habaysano qorta isugu jira oo isoo cid ka horreysaba aanay qorinin waxaa ka wada markaa itaarada iyo qadabka iyo cadhada qofku inuu ama mowqif ka xanaaqo ama qaab iyo sifo uu ka xanaaqo iyo tilmaan ama uu maalan ay kiciso naftiisa cid ka isaga la mid ah ama ku agdhow waxay samaynayso oo wax ka qayb qaadanaya muxuu ahaye inuu meel gaadho marka waa isticdaadka nafsiga isticdaadka caqliga ahi caqligu waa laba nooc sidii ta naftaaba tii hore baynu sheegnay qofku inuu caqli ilahi subxana aza wajalla uu siiyo caqli fiican uu leeyahay oo sarreeya ama dakaa fiican inuu leeyahay iyo caqli muktasab ah caqliga muktasabkaana culimadu waxay u yaqaaneen alcaql almasmuuc ama alcaql almustafaad marka labaduba waa tahay inuu qofku kan ilaha subxana aza wajalla siiyeyna waa inagii sheegnay ibnu badrin hadalkiisiina cadamu dakaa alfitri waa ka mid waxyaabaha keena in qofku aanu cilmi fiican baranin laakiin qofku inuu kasbado caqliga oo ku celcelinta iyo waad ogtihiinoo rabiic almuraadi waa axad akaabir culimada shaaficiyada oo tilmiida shaafici ah weliba ragga ugu kalsoonida badnaa shaafici buu ka mid ahaa haddana maca dalika masale ka mid ah masaa'ilka fiqiga intuu ugu celceliyo buusan fahmi jirinin markaasuu shaafici wuxuu ku oran jiray haddaan awoodi karayo in an uطcimaka cilmi itcaaman inaan cilmiga ku quudiyo sida cuntada afka kugu guro malqacad waan samayn lahaa laakiin ma awoodo marka waxaa ku tusinaysaa culimada muslimiintu xataa yani mustawaha dakaaga iyo caqliga heer aad u wada sarreeya kamaysan wada gaadhin waxaa laga yaabaa mutawasit inuu ahaa laakiinse dadaalka iyo isku xidhka iyo ku celcelinta awgeed uu u gaadhay meesha uu gaadhay waxaa laga wariyaa ninkii la odhan jiray addison oo kahrabadan iyo waxaan keenay taqriiban sida muxuu ahaa korontada leerkan aynu shidano ikhtiraacisa lahaa boqol haddii loo qaybiyo caqliga boqol hal meeloo ka mida keli ah baa cabqariye ah oo qof wax ilahay ku abooy ah laakiin inta kale waa kasbasho iyo wax ilahay subxana iyo dadaal waa kasbasho iyo dadaal iyo dhidid qofku uu la yimaado laakiin inta qofka ku abooran waxaaba laga yaabaa boqolkiiba hal inay tahay addison laftarkiisu iskuulka uu dhiganaya waxaa looga eriyey faham daro iyo cilmiga nadariga ah gaar ahaan cilmi camali ah buu ku soo baxay markii dambe cilmiga nadariga ah inuusan wax fiican ka aqoon marka intaas waa ama isticdaad aljismi jir ahaan qofku inuu u diyaargaraysan yahay inuu u diyaargaraysan yahay jir ahaanna macnaheedu maaha qofku inuu biro waaweyn intuu qaado waxyaabahan hadda dhalinyarteena qaarkood ee quruxda moodeen waxaa la yidhahda cadalaad waaweyn la soo baxo oo kale ma aha qofku waxa weeye uun inuu caafimaad qabo hada aham shay inuu caafimaad qabo caafimaad u saamaxaya inuu cilmigii inuu muwaasaleeyo inuuna iska ilaaliyo qofku waxyaabaha khumuulka ku keena waayo cuntooyinku isku mid maa culimada muslimiintuna way ka hadli jireen waxaa laga yaaba marka qaarkood cuntooyinku qofku cunaya inay keenaan khumuul iyo caajis iyo daal iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah inuu iska ilaaliyo maalan culimadu waxay tilmaami jireen waxyaabaha qaarkood oo qofka xifdigiisa kordhiya dakaagiisa kordhiya waxyaabaha noocaas oo kale ahna haddii ay mujarab yihiin oo saxan yihiin in la isticmaalo haddii kalena qofku inuu iska dhaafo laakiin uu iska ilaaliyo uun cuntada aadka u faraha badanna iska ilaaliyo una iska ilaaliyo sidoo kale cuntooyinka qaarkood oo keena inuu qofku balaado iyo caajis gasho sidoo kale ghidaaga qofku uu qaata waa laba nooc midna waa macnawi midna waa badani midna waa kan xisiga inuu naqaano kan macnawiga inuu aad u ilaaliyo macnawiga waxa weeye wixii isha kaa gelaya isha waxaad ka isticmaalayso ka cunayso dhigta iyo wixii afka aad ka isticmaalayso waxaan leeyahay nacam isha iyo dhigta oo maalan qofku hadduu xaaraan daawanayo ama uu dhegtii xaaraan ka dhegaysanayo cilmina uu rabo inuu barto de waa adagtahay waad moogtiin hadaladii shaafici laga soo naqdin jiray mawduucan ku saabsana athar almacaasi cala alcilmi taqriiban mawduucaad u ballaaran oo laga yaaba inaad wax fiican ka akhrisan wey kan xisiga ahna waa tilmaamay marka qadiyadda ku saabsan isticdaadku waa mucaziz lagama maarmaan ah waxaa ka mid ah macaanida qalbiga ah qofku inuu kordhiyo ikhlaaska niyada cilmiga ku ictizaaz iyo sharaf uu dareemayo markuu qofku cilmiga baranayo ilahina inuu kaalmaysto ikhlaaska oo kale iyo macaanidan aynu tilmaamayno waxaa laga yaabaa qofku aad baa loogu celceliyayo waa macaani dadka badankoodu meel kastoo aad tagtid ikhlaas ilahay dartii u baro baa lagu odhanaya niyad laykaale baa lagu odhanaya mar waxaa laga yaabaa taalib cilmigii sidii loogu celcelinayay inuu macaanidan isaga qaato wax iska fudud yani khalaas qofku carabtu waxay yidhahdeen kathratu lmasaas tudhibu lxasaas wax marka lagugu celceliyo aad marka dambe waad la qabsanaysaa marka la qabsigu waa mushkilad marka macaanidan inaad la qabsataan maaha macaanidan waa inay mar kastaba idinku keento ibhaar iyo culaysgelin iyo murugo iyo welwel haddii aadan wixii ilaahay dartii u samaynaynin iyo waxyaabaha lamidka niyadu waxa weeye qodob ku saabsan
akhyaaray cilmiga marka la baranayo waa in la niyeysto qofku inuu cilmiga meel fiican ka gaadho ilaah subxaanahu watacaala meel fiican uu cilmiga ka gaarsiiyo waxaa laga yaabaa in maalan qofku u fahmo ama dadka qaarkood ay u fahmaan cilmiga in la niyeystaa inay keenayso in riyaa iyo istus iyo waxyaabaha qaarkood inay ku keento inuu cilmiga meel fiican oo meel sare ka gaadho sidaasna ma aha ibnu cabaas radiallahu canhu waad garanaysaan oo waa kii qisadii caanka ahayd oo ninkii isagii ansaariga ahaa dhex maray markii uu ku yiri warkaale wax baranaya ansaarigu ku yiri saxaabadii waaweyneed oo cilmiga laga baran jiraa joogay inagu maxaynu qabanaynaa markaa saxaabadii waaweyneed oo meesha joogay taqriiban ibnu cabaas wuxuu ka fekerayay isagu saxaabadina markay dhintaan inuu isagu bedelo marka niyada uu isagu niyeysnaa saasay ahayd markii uu iskaga tegay cilmiga isagu bartay waa kii waagii dambe ansaarigu arkay uu ku yiri hadal fataa kaana caqla mina wuu iga caqli badnaa wiilkay quraanka rabbi subxaana caza wajalla suurat alfurqaan aakhirkeeda waa ka markuu ka warramayo muslimiin ducada saalixiinta waladiina yaquuluuna rabbana hab lana min azwaajina wadurriyaatina qurrata acyun wajcalna lilmuttaqiina imaama wajcalna lilmuttaqiina imaama nin culamadeeda ka mid ahbaa wuxuu noo odhan jiray markuu noo yimaado waryaadhahe culimanimo niyeysta sheekhnimo niyeysta buu odhan jiray marka niyeysiga laftirkiisa wuxuu yahay qodob runtii sidiisa u muhiim ah alictizaaz bilcilmi qodob aad u muhiim ah qofku inuu sharaf dareemayo markaad cilmiga baranayso waayaha dambe waxaa soo baxay social media lagu wada jiraa dhalinyaro ku dheeldheesha oo ku jeesjeesta ama culimada ama barashada carabiga ama barashada culumta shareecada weliba carabiyada waagan dambe duulaan xoog leh oo mu'asasaad laga maalgeliya galbeed reer galbeedku maalgeliyaan ay ku wadaan dad ka shaqeeya ama dad afkaartooda qaatay oo mutabaniin ah afkaarihim ay ku wadaan marka adigu inaad ictizaaz aad dareento oo aad isku sharaf dareento cilmigan markaad baranayso ama carabi ha ahaado ama cilmi kaloo shareecada ka mid ha ahaadee inaad tahay ashraf min hayrik culumta kale oo dhan dadka baranaya macana culumta kale inay iyadoo culum faadila tahay oo aynan hadda maagaynin culum runtii sideeda loogu baahan yahayna ay tahay oo culum muslimiintu si ay u gaaraan heer sare iyo xabaaro fiican aynu u baahannahay culumtaasoo kale ina barto aan gabagabeeyo qodobka mucjizaad ku saabsane ha loo sabro yaan la dedegsan oo nataa'ijta iyo thimaarta iyo maraha yuusan qofku dedegsan cilmigu wuxuu u baahan yahay waqti aad u dheer waayahan dambe mashaakilka ina haysta waxa weeye 4 sano 5 sana waxaa la rabaa sheekh inuu wada noqdo taasina cilmigu kuma imanaya cilmigu wuxuu ku imanaya waqti dheer 10 sano ku imanaya kasii badan buu ku imanaya ka yar badaya inuu ku yimaado waxay ku xiran tahay qofku isagu faa'iideysto laakiin qofku waa inuu dedegsan waa qodob ku xiga mucawwiqaadka la iska ilaaliyo waxaa jira waxyaabo fara badan oo culimadu calaa'iq iyo cawaa'iq ay yidhaahdaan oo mucawwiqa cilmiga yani qofka ka istaaga inuu cilmiga barto waxyaabaha noocaas oo kale ah intii iqtisaad uu samayn karaya qodobkan qodob ma ahayn sidiisa aan rabeen oon uga hadlo damahaaraad baan rabeen aan ka hadle qodobkan isagaa sidiisa u baahan in muxaadarooyin gooni ah laga qabto laakiin hal qodob oo ka mid a mucawwiqaadka aan tilmaamaya waayahan dambe mushkiladaha ugu badan oo talabatu cilmiga haysta waxaa ka mid ah qadiyada ku saabsan maalka iyo kasbashadiisa taalib cilmigii adduunyu dagaal kula jira wuxuu rabaa inuu waxa la yidhahdo guri dhisto inuu gaari iibsado inuu waxa la yidhahdo 2-3 gabdhood guursado isagoo dhowr laatan jira waxa laga yaabaa inuu ku fikirayo 2-3 gabdhood inuu guursado cilmigii inuu bartana wuu rabaa waa mushkilad sidee inteeda la eg cilmigu ka sharaf badan in badanna maalka culimada muslimiintuna ridwaanullaahi calayhim maanta magac weyn baynu u haynaa ixtiraam weynna waa u haynaa kuwo fara badan oo maanta aynu xusaynana fuqaro waxay ahaayeen dadka aynu baahayna fuqarado kale ah marka cilmigu wuxuu u baahan yahay oo adkaysi hadduu ilaahay adduunyo kuu furana waa ilaahay mahaddiis haddii lagu furi waayana cilmiga inaad uga jeesato inaad maal kasbato mushkiladeeda leedahay mahaaraadka waxaan qaybinaya laba nooc qaarkood maadaama la og yahay ama wax laga yaqaan wax laga dhaafo qaarkoodina wax yaro kooban baan yara dul istaagaya mahaaraadka aan dhaho mahaaraad cilmiya macrifiya ardaygu wuxuu u baahan yahay markuu wax baranayo weliba waxbarashadana ay tahay waxbarasho isagu iswadayo waana wuxuu taqriiban qaarkood wax badan oo ka mid a kala sinaan karaya ardaygii kale oo mu'asasada dhiganayay mahaaraad macrifiya iyo mahaaraad takhtiitiya ama fanniya mahaaraadka marka waxaan ku horeynayaa mahaaraadka macrifiga ahi intii aanu naqaanay maalan mahaarat alxifd cilmiga barashadiisu culimadu qaarkood 17 sees bay leeyihiin bay yidhaahdaan 17 sees 2 sees baa ugu muhiimsan midna waxaan geliyey takhtiitiga midna waxaan geliyey macrifiga midda macrifiga marka waa mahaarat alxifd kuwa kalena waxa weeye mahaarat ikhtiyaar alsheekh inaad sheekh leedahay cilmigii inaad xifdiso labada maharo ugu muhiimsan xifdiga waxaan inaan sii dul istaago ma rabo waxaan idiin ixaalaynayaa qawaacid alxifd kelimado kooban oo sheekh camir bahjat uu leeyahay qawaacid alxifd taqriiban ciwaankaas oo kala wata isaga marka youtube ka baaro oo raasado dhegeysta laakiin xifdiga hal qodob baan rabaa inaan ka idhaahdo ah
cilmigu weliba da'dan dhalinyarada hadda ragga waxaan rajeenaya rag iyo gabdhaba intay dhegeysanayaan inay dhalinyaro u badan yihiin inta waqtiga dhalinyaranimada lagu jiro waxa ugu muhiimsan uu qofku qabto inuu xifdiyo weeye walidaalika waxa aad u fara badan xifdiyo waxaan idiin celinayaa waxaa jira maxamed taahir ibn cashuur hadalkii koowaadaan soo qaatay oo raysi bari baan ka soo qaaday ninka iskale maxamed taahir ibn cashuur waxaa jirta tarjimo kooban oo manshuur ah oo pdf aad ku helaysaan man ana baa la yidhaahdaa man ana risaalada waxuu kaga warramayaa markaa 9 jir markuu ilaa intuu da 9aad soo gaadhay wixii uu xifdiyey ibnu cashuur waxaan idinku celinayaa waa dhoweyd buu dhintay haddaan idiin celiyo oo kale maalan ibnu xajar iyo raggii hore waaweynaa culamada muslimiinta ah xufaadda aha waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo de raggaas waxay noolaayeen zamaan faadil ah waa kan yani azminada inay inagu keento ishkaal baa laga yaabaa marka maadaama zamankiisu dhawaa ibnu cashuur dee dhowaan buu dhintay hadda qarni buu sii mootan yahay marka bal isagu markii uu 9 jir ahaa intuu xifdisanaa taqriiban intaasoo alfiyo intaasoo kitaab oo kale wax inagu maalan laga yaabo qofkeena 30 jirka ah taalib cilmiga inuusan xifdisanayn marka qadiyadda xifdiga ku saabsan haddii ay jiraan qof mu'asasa haya weli mu'asasaadkeena ama malcaamada ha ahaadeen ama macaahida ha ahaadeen ama jaamicad ha ahaadeen in la xoojiyo jaanibka xifdiga ah waayahan dambe jaanibka xifdiga ah waa daciifun jiddan jiddan qofku marka isagu markuu wax baranayana ha xoojiyo oo hadduu kastaba ha ka xifdiyo kitaab fanniga uu baranayana kutub doona ha ka xifdiyo weliba kitaabka ugu weyn ugu muhiimsan luqa carabiga oo kale ibnu malik ha xifdiyo fiqiga oo kale zubad ha xifdiyo waxa kada yani dhowr alfiyo qofku intuu awoodi kara ha xifdiyo runtii aad bay ugu fudud yihiin qawaacideedana meesha aan idiin xaaliyay baad ugu noqonaysaa maharada labaad waxa weeye fahamka تعزيز الفهم waxa la baranayo in la fahmo marka fahamku isaga heer iyo heerar iyo darajaad ah inaad daahirka waxaan kuu qoran fahamto erayadan kuu qoran daahirkooda inaad fahamto iyo inaad raadiso waxa ka dambeeya ee ku hoos laaban mutuuntan yara kooban oo dadka qaarkoodna ay dhaleecayaan culimmadu inoo qoreen mukhtasaraadka ah iyada sida qaabka loola tacaamulayo oo matnigan qofku sida uu cilmiga ugala soo baxayo naftirkeeda cilmi ah culimada muslimiinta ah sheekhayga ahaayo fiqiga dhigi jiray wuxuu oran jiray fuqahadu waa muhandisiin weeye injineero marka aad aragto inaga hadda marka waxa laga yaabaa ragga mucaasiriinta ay kutub ay qorayaan lafdiga ay oranayaan bal sadarrada qaarkood ay qorayaan waxa laga yaabaa wax munaasabo ah oo sadarkaasi leeyahay inaanu jirin faqad inuu ku soo dhacay kadibna uu sidaa ku cabiray laakiin ninka faqiiha ah فقيه كلية ما هي دمان متونتا علومتا مسلمين تا قرآن النحو إيه الصرف إيه الفقه إيه عقيدة مانه عقيدة ذو كانوا حلقة يابا مثلا قاب كي متونتا هي أيسن لا وبدحين لكن متونتا كلا أولا متن كستا كلمات كأي حروف حرف كستا وماشا كتشرا معروف كتشرا مثلا هدو لو يراهدو هدو النكيانو هدو وحلا يراهدو حروف تعاطف كلا دواناشهودا حروف الجركة واستعمالها كلا دواناشهودا وحلا يابا بيرو استعمالها حرف كان من أجل مسألة علمية marka qaabku isugu kabkabayo waa injineerku sidoo guriyaha isugu kabkabo oo kale marka la tacaamulka kitaabkan qaab aad la tacaamulaysa cilmiga uga dhashanaysa iyada misradan ah marka fahamka aad fahmaysa daahirka misradan waxa ku qoran intan inaad isticaabto tasawur fiican aad u yeelato waliba marxalada koowaad markaad joogto aad cilmi baranayso oo aadan gaarin waasil ahayn oo meel sare aadan gaarin waxaad u baahan tahay tasawur inaad u yeelato lidawaahir almasaa'il faqat wixii inta ka sii hooseeya khilaafka iyo tacliilka oo cilmi kastaba gala khilaafka masalada la isku hayo tacliilkeeda quyuud ay leedahay shuruuda faraha badan ay leedahay waxaas oo dhan aan mutuunta culimadu ay ka ilaaliyeen aysan ku qorinin adiga waa laga ilaaliyay sababta lagaaga ilaalinayana waxa weeye hadaad waxa aado waxa kugu dhacaya waad tawafaysaa oo waad yani waxa kugu dhacaya tashattut waa kugu dhacaya marka inta culimadu ay ku qoreen kaanu naasixiin lak ولذلك وين انت marka hore ku dadaasho inaad tasawurto inaad fahanto mesela waxaad dhiganaysaa ajruumiga isaga faham waxa halkan ku qoran laakiin hadda ajruumiga sharxa ugu culus uu leeyahay iyo xaashiye sharxaasi leeyahay aad soo qaadato waad marka ajruumiga dhiganayso xaashiyadiisa iyo sharxiisana la akhriso dawaad isdilaysaa markaad dhiganayso mesela ibnu malik marka hore haddaad xataa sharax la fahmayso sharax la qaadanayso sharaxa ugu roon مثلا ibnu hishaam oo kale ama ibnu caqiilka oo kale ee inta matniga uun furfuraya laakiin wax fara badan oo kale aan ku daraynin kaa la qaado laakiin haddaad la qaadato xawaashidii iyo kutubtii kasii waaweynaa iyo masaa'ilkii waxa la yidhahdo intaa kasii hooseeyey
tashatut badan baa kugu dhacaya. Marka hore kan dabti, kadibna waxaad helaysaa asaas baad helaysaa aad wax ku dul dhisato. Mathalan markaad aajuruumiga masaa'ilkiisa kuu sawiran yihiin, masale kasta oo aad aajuruumiga ku dabtisay uma baahnid marka aad gaadho mathalan kawaakibka. uma baahnid khalaas yani masalada waxay u baahan tahay oo keli ah plus maxaan ku daraa. laakiin haddaad aadad ku dabtin weydo masaa'ilkii ajuruumiga waxay noqonaysaa markaad kawaakibka soo gaadhid masaa'ilkii ajuruumiga iyo kuwo kasii badan inaad wada dabtiso. taasina waxay kugu keenaysaa ishkaal xagga fahamkaaga ah. hadhow haddaad kawaakibkii kusii dabtin weydo intii ziyaadaadka ahaa ee ajuruumiga uu ka badnaa, waxay noqonaysaa hadhow ibnumaaliga markaad gaadho ama maalan qadrulnadaha oo dhexdaa sii marto inaad intii hore maalan kuwii hore ku jiray iyo ziyaadaadkii qadrulnadaha inaad wada dabtiso. taasina ishkaal bay kugu keenaysaa. kitaab kastaba meeshiisa ku diri. waliba silsilada markaad dhiganaysaan cilmiga ah oo naxwuhu kale ah dhiganaysaan, ishkaalaadka ugu badan oo talabatu cilmiga ah haysta waxa weeye waan soo maray laakiin waxba laga garan maayo. culimada muslimiintu sidaa ma ahaan jirin. kitaabka markaad soo marto, tusaalahaan aad leedahay ajuruumi baan soo dhigtay si aad ugu gudubto kawaakib, ajuruumiga waa inaad tahay dabti taama. haddaadan xifdisanayn annak tatasawar masaa'il, haddii lagu weydiiyo waa inaad masaladiisa wax laga jawaabi karaysaa. hadday ahaan lahayd wax la tirinayo, su'aal laga jawaabayo, taqsiim iyo qayd wixii ku qornaa meeshaas waa inaad sidiisa u dabdisan tahay. kadib baad kitaabkii kale u gudbaysaa. cilmigii markaasoo kale wuu ku macaanaanaya. waayo cilmigu waxa weeye qofku marka uu maxaan idhahdaa maalan tusaale aan idin siiyo, soomaalida waa iska qabyaalada iyo qabiilku waa iskaga fiican yihiin. qofku marka aad dad yaqaan markuu yahay oo reeraha iyo siday isu galgalaan iyo muxuu ahaaye siday u kala baxbaxaan lafahooda iyo u yaqaano, meel kastoo uu yimaado haddii la yidhahdo qofkaasi waa hebelka, waa in hebel hebelkaas waa hebel, waa in hebel hebel, waxa uu ku raaxaysanaya in hebel hebelkaa loo sheegayo. sababta wixii o dhan buu kala garanaya. laakiin adoon kala aqoonin in hebel hebel iyo reer hebel, haddii lagu yidhahdo kan waa in hebel oo reer hebel, in hebel oo reer hebela, wanigu yaa soo gebagabeyaad haddaba odhanaysaa khalaas de maxaad intaa ka badan wixii baadan fahmaynin. hada ishkaal. marka aad cilmigii intii hore kuu sugan tahay, dawaahirkii masaa'ilka kutubta yareer ku qornaa ay kuu sugan tahay, intii dambe macaan bay yeelanaysaa. laakiin hadhow intii kale waxay kugu noqonaysaa xumuulo culus oo kugu noqoto marka inay cilmigii kaa jeediso. qodobka halkaan kaga baxo. marka dhowr qodob oo ku saabsan fahamka. qodob koowaad, dhegeysi fiican waa in loo yeesho. hadduu casharkii markaad cajaayadda dhegeysanayso marna seexato, marna soo toosto, marna qof la sheekaysato, mushkilad bay ku keenaysaa hadhow fahamkaagii. weliba waa ishkaal ay cajladuhu leeyihiin iyo casharada canbucdiga ah oo meel fog laga dhegeysto. qofka yani intibaahiisii iyo baraarugsanaantiisiiba waxay ka qaab qaadanaysaa inuu wax badan kamid kala dhinaadaan. waa inaad markaa intibaahaagu fiicnaado, inaad dersigaas muntabih tahay, wax kastoo sheekhu sheegayo aad soo jeedo. qodobka labaad waa inaad ku celceliso. ku celcelintu waxa weeye kitaabkii aad dhiganaysa inaad ku celceliso. laba nooc oo ku celcelina baa jira, dib baan uga iman doona iyada. qodobka saddexaad waa inaad sii taxdiiriso, sii diyaariso intaadan dhegeysan. qodobkani waa qodob culimada muslimiintu ay aad u yaqaaneen, waxna aynu kusoo bixi jireen runtii aad wax ugu fahmi jireen, laakiin inagu aynan aqoonin. inagu dersiga aynu qaadanayno, tusaale ahaan casharka maalan markaynu qaadanayno mabniyaadka asmaada ah markaynu qaadanayno, waxaa laga yaabaa casharkaas haddaadan hore usoo dhigan khalaas inaad ugu talagasho sheekha oo keli ah inuu intuu ku akriyo aad marka sheekha markuu akriyo kadib aad fahamto. laakiin culimadu sidaa ma ahaan jirin. waxay samayn jireen gaalahaan hadday asaasiyaadka hoose kale soo dhigtaan, maalan markuu marayo oo kale qadrunadaha, baabka la rabo berri in la akriyo buu sii akhrisan jiray isagu. marka weliba qaabkii u akhrisan jireen ragga qaarkood markay tilmaamayaan waxay leeyihiin matnigaan soo qaadi jirnay, kadibna matniga masaa'ilkiisa oo dhan baanu akhrin jirnay annagoon cid waxba kaalmaysanaynin, laa sharax walaa sheekh walaa cid kale. masaa'ilku siday ugu qoran yihiin baa waxaan isku dayi jirnay inaan u fahanno. waa ku celcelin jirnay 2 jeer 3 jeer 4 jeer 5 jeer. markaanu isniraahno waa fahanteen alla ilaahay, meel u nagu taagan tahay baanu sharaxa soo qaadi jirnay, sharaxa ugu fudud ee shuruuxdiisa ka mid ah. markaasaanu sharaxana sidii matniga oo kale baanu ugu celcelin jirnay ilaa aan isniraahno sharaxa wixii ku qornaana si wacan baad u fahanteen. markaasaanu mararka qaarkood xawaashida u gudbi jirnayo aanu xaashiyada faa'iidada kasoo qoran jirnay. annagoo baabkii markaa soo diyaarinay baanu aroortii sheekha ula tegi jirnay. sheekha markaan aroortii ula tagno sharaxo oo markaa waxay noqonaysaa inuu wixii ama sideedii uu kuugu qoro ama si khaldanad wax u fahantay inuu kuu sheego. hadhow markaa casharka aad sidaa u diyaarisay way adagtay hadhow sidaad u ilowdo. hadhow dibka ilaawi maysid. haddaad weliba hadhowna mudaakara labaad sii samayso, mudaakarada waa ka hadli doonaa. taxdiir hore, kadibna inaad darsiga dhegeysato, kadibna aad mudaakara samayso. waxaad noqonaysaa cilmigaasi inaad u dabtiso sida culimadii muslimiintu wax u dabtin jireen oo kale, usan kaa baxsanin. taxdiir hore iyo dhegeysi casharka oo macalinka aad ka dhegeysato iyo mudaakara dambe, saddexdaas hadday isu kor raacaan. fahamka waxaa ka qayb qaata
casharkaad dhiganaysa inaad ku samayso waxyaabaha qaarkooda fanniyaad waa ka mid tahay matalan inaad ikhtisaar samayso soo koobto casharkii matalan cashar dheer buu ahaa inaad buug qaadato adigu koobto talkhiis ku samayso talkhiisku waa waxa weeye musaacid fi lfahm waxa markaa talkhiiskuna waa dhowr nooc mar calaa sabiili niqaad buu noqonaya mar isagoo dheer baa laga yaaba in si kale inaad soo talkhiisiso laakiin uu cashar dheer yahay inaad samayso taqaasiim casharka markuu matalan kutubta mutuuntahay waad aragtay inuu taqaasiim ma sameeyaan badanaaba marka inaad adigu taqaasiimta dhaliso oo aad taqaasiimtan ama u samayso sida lambarada caadiga ah lasoo dhigo ama qaab jadwal ah iyo geed oo kale aad u samayso waxyaabaha boqolkiiba boqol fahamka saacida bay ku jiraan waxaa ka mid ah inaad nadmi ku samayso masaa'ilka qaarkood si aad u dabtiso waayo nadmigu keenayo istixdaarka iyo qofku wixii inuu hadhow uusan ilaawin wuu uga saacidaad badan yahay wixii kale marka matalan masalada qaarkood oo kale hadduu nadmiga ilaahay kuu furay inaad laba beed ku nadmiso labadii beed aad xifdiso waxaa ka mid ah su'aal inaad la timaado inaad casharka fahamka wax ka qayb qaadanaya lisaanu sa'uul sida ibn cabbaas ma odhan jiray dayib halka aan kaga soo baxo masalada faham itilaaca oo mahaaraad runtii aad u fara badan leh isagu waa marxalatul waasil oo qofku markuu cilmiga wax fiican oo kamid a bartoba laga yaaba itilaaciisuna inuu waasil noqdo isagu marka hadda waqti waa kooban yahay waa iska dhaafaya tadriisku waxyaabaha ka qayb qaata marka waxaan idin laaway marka hore inaan usoo qaybiyo mahaaraadka macrifiga ah laba qaybood ama saddex qaybood mahaaraadka qaarkood waxaan u bixiyey mahaaraat aliktisaab watathbiit qofku inuu cilmiga kasbado isla markaana uu sugo cilmigii mahaaraadka labaad waxaa dhaha mahaaraat almucaalaja cilmigii in lagu sameeyo muxuu ahaa ikhtibaar in la imtixaano cilmigii aad garanaysay mahaarada saddexaadna waxaa mahaaraadka kalena waa mahaaraad mushtarag oo ka dhexeeya labadaasba mahaaraat aliktisaab watathbiit marka waa kuwan aynu sheegnay afartan aan hadda sheegnay waa xifdiga iyo fahamka itilaaca iyo dhigista tadriiska tadriisku marka noocna dhinacna iktisaab buu ka noqon karaya oo waxaa jira waxyaabaha qaarkood oo macallimiintu marka ay ardayda wax u dhigayaan fahmaan inta ka horreysana aysan fahmin culimada u baana yaqaana taqriiban wax dhiga waana dhinac kalena waa tathbiit oo waa kii hada yaziidu bikathrati linfaaqi minhu wayanqusu min bihi kafan shadid marka aad bixiso tathbiit baa imanaya wixii uu ku sugmaya marka dhigistoo kale majaalkaaga takhasuska ah kitaabaad aad u ruugtay oo aad maxaa ahaa dawayaan waxaa ugu badan qofku markuu kitaab dhigayo inuu habeenkaa ka horeeya meelaha la akhriyo soo diyaariyo oo wax kusoo yaro qorqorto oo arowtii la yimaado laga yaabo darsiga soo socda haddii wax laga weydiiyo macalinka laftarkiisa uusan garanaynin wax ka horeeya wixii ka dambeeya soo dhaafeen uusan garanaynin kaasoo kale ma aha kaynu u baahanay tadriiska qofku kitaabka markuu ruugo oo sida xarafka ugu horeeya maalinkuu bilaabayo uu u garanayo xarafka ugu dambeeyana uu u garanayo qofkaasoo kale tadriiska waxbuu ka faa'iidaya wax badan buu ka faa'iidaya haddii kale cashwaa'iye iyo tanaaqud iyo wax badan baa ku imanaya ayib mahaaraadka mucaalajada waxaa ka mid ah almudaakara walmubaaxatha mudaakarada iyo mubaaxathadu way kala duwan yihiin mudaakarada waxaa la yidhahdaa qofku inuu tathbiit sameeyo marka dhinaca waxay ka noqonaysaa mudaakaradu iyadu dhinaca waxay ka noqonaysaa muxuu ahaaye tathbiit laakiin mucaalajana waa u dhowdahay qofkii wixii uu dhigtay bal inuu istijaabiyo wuxuu ka garanayo marka mudaakaradu waxa weeye laba qof oo kale ama saddex qof ama wax ka badani inay cilmigii kusoo ceshadaan si ay u sugaan cilmigii marka ama ishkaal ay soo saaraan ama wixii qofkani dhaafay uu loogu celiyo ama matalan masaa'ilkii lagu sugo iyo waxyaabaha lamidka ah mubaaxathadu iyadu way ka duwan tahay mubaaxathadu waxa weeye wax cusub baa la raadinaya ama labada qof baa midkood wax garanaya ka kalaan garanaynin kadibna masaladii baa lasla baaraya qofkii aan garanaynin baa loo sheegaya ama labaduba garan maayaane waa la baaraya marka baaritaanka laba nooc in kutubta laga baaro iyo inuu labada qof iyagu isweydiiyaan oo marka ay bal waxay cilmi garanayeen ay isla baarbaaraan kadibna rogrogaan kadibna ay marka ama culimada weydiiyaan waxay natiijo soo gaareen ama ay kutubta ugu noqdaan ayib marka mubaaxathadu waa kaa labadan marka qodob oo mubaaxathada iyo mudaakarada ahi waxay ka mid tahay waxyaabihii ugu muhiimsanaayo cilmiga culimadu ku baran jireen koy odhan jireen matalan alcilmu bayna talaamiid markay odhan jireen nooca mudaakarada iyo mubaaxathada un bay ka hadlayeen غائلة العلم النسيان وترك المباحثة حسن البصري واتويري بغوي ليس الفقه إلا حل الإشكال صاحب الحاوي المذاكرة بالعلم قربة هذا الله ظفر بدن وحي جرى علماء المسلمين تلقوري وكسابسا مذاكرة دي مباحثة دي أهمية لهذا waxaan markaa talabatu cilmiga kula talinaya marka horena waan iga tilmaamay saddex qodob hadduu qofku la yimaado qofku wuxuu gaaraya fanniga inuu dabtiyo ama kitaabka mucayanka kitaabku baranayo dabtiyo ama fanniga uu dabtiyo qodobka koowaad waa taxdiir ka horeeya intaadan kitaabkii macallinkii dhigaya aadan u teginin inaad marka hore adigu sii diyaariso intaad isleedahay in layla ilaa halkaa buu berri akrinaya inaad sii diyaariso oo waqti ku bixiso waqti fiican weliba ku bixiso qodobka labaad waxa weeye in aad macallinkii ka dhegaysato oo markaa macallinkii intibaah fiican baraarug waxa uu sheegayo su'aal inaad weydiiso
iyo waxa la midka ah. Qodobka saddexaadna waa mudaakarada qofku inuu sameeyo. Marka mudaakiradii haddii aad xalaqa dhiganaysaanna arday ahaan baa isu heli karaysaan. Haddii aad buucdi tihiin oo sidan oo kale aad barnaamij cilmi dhiganaysaanna dee waad isla heli karaysaan. Dad baa hadda rag dhalinyaro waxaa jira dooraan aniguba garanayo oo sidaas ku sameeya, yani meelo kala duwan jooga online kaa soo wada gala mudaakara markaa wada sameeya casharkii ka dambaysa. waa qodob aad u muhiim oo cilmiga tathbiitiya weeye. mudaakiraduna laba qaab bay noqotaa. marka qaarkood inay maca alcaalim oo caalimkii sheekha ahaa lala mudaakareeyo, hadda culimadanu gaaliban ma yaqaanaan. waagi hore culimada muslimiintu waxay lahaan jireen majlis la yirahdo majlis mudaakara oo cilmiga lagu mudaakareeyo. wuxuu qabanaya mid wuxuu leeyahay 10 barqanimo ilaa 12 cilmigan mudaakareynayna. marka meel buu fariisanaya wax cilmi oo muayyan oo la yiraahdo مثلا ama luqa ama naxwi ama fiqh ma akhrinayo, faqad ardayda u imanaysa masaa'il balaga doodaya aqooneed wala mudaakareynaya wala soo celinaya wala soo faa'iideynaya sidaas oo kale u yaqaan. taswiir aqooneed bala sameyn jiray iyo rug marka waxa ka dhiran jiray qofku inuu masaa'il fara badan oo aqooneed u faa'iido. طيب marka bal kutubta fiqhiga مثلا mutawalka marka akhrisan meelaha qaarkood waxaad arkaysaan masaladani waxa faa'iideeyay fulaan bil mudaakarati afadahu fulaan bil mudaakarati meelaha qaarkood ku arkaysaan. mar hadda waxaan ku aragtaan macnaheedu waxa weeye majlis mudaakara markii la joogay imsada ruugayo faa'iidada keenay ama marka waxa ku dhalata mid hore u yaqaan ha ahaatee. mudaakaradu marka marna waa culimada maca ulama marna waa bayna tulab ilm maca ulama oo kale مثلا waxaa jirta subki ali ibn abdulkafi subki taqiyuddin abdulwahab aabihi wuxuu leeyahay tajiddin subki aabahay wuxuu sameyn jiray anagoo dhalinyaro ah oo ardaydiisii ah uu habeenkii isugu ka yeeri jiray. wuxuu oran jiray marka fiqiga marka rag fuqaha fiqi baranayana waa ahaayeen culumta kalena runtii aad loogu fiicnaayeen. fiqiga 4 madhabood isla soo qabsada isla kamid ah fiqiga meesha doontaan. ali ibn abdulkafi wuxuu ahaa yani min a'lam khalqi illah bal wuxuu leeyahay subki isaga ka cilmi badnaa nawawi marka la eego nawawi iyo subki marka la eego subki baa cilmi badnaa inkastoo nawawi uu leeyahay nawawi waa warac badnaa. marka muhiimadu waxa weeye subki wuxuu oranayaa marka midna isagu dawaanin caalim oo masaa'ilka cilmiga oo dhan baa u suuraysan wixii uu garanaya. wuxuu leeyahay marka masalo طيب waxaan wadi hadalkii subki wuxuu leeyahay marka aabahay wuxuu oran jiray masalada doontaan doorta kadibna masalanu dooran jirnay. wuxuu oran jiray marka 4 madhabood kala qaata nin kastoo madhab ka soo diyaari masalada. markaanu soo diyaarino habeenkoo dhan ku mashquulsanaano inaanu kutubtii madaahibta ka soo diyaarino wuu oran jiray khalaas ninkii xanafiga qaatay hadal maxaad u daliila maxaa masalada ka tiri sidaasuu odhanaya adiladaada keenso. marka adiladii buu ka jawaabi jiray wala naqaashi jiray ishkaalaad buu ku furi jiray kadibna 4 madhab buu saa ku samayn jiray. hadhowna wuxuu noo taxdiidin jiray noo sugi jiray qaabka ay masaladu noqonayso. marka qaabkaas oo kale in culimadu ula mudaakareeyaan cilmiga talabatu cilmiga waa jirtay inay talabatu cilmigu sidooda isula mudaakareeyaanna ina waa jiri jirtay si ay u ikhtibaaraan markaa qofku bal wuxuu cilmi hayo. marka marna mudaakaradu waa mid caam ah oo cilmiga guud ah in masale la qabsado cilmiga guud ah iyadoo kutub loogu noqonaynin markaa bal qof kastaba wuxuu cilmi hayo aqoon hayo la isla fiiriyo iyo kitaab muayyan ah oo kutubtan matalan aad dhiganaysaan oo kale ah lagu dul dhiso oo markaa lagu celceliyo. طيب اللهم استعان. مهارات marka halka aan kaga gudbo mahaaraadka mushtaraka waxa kamid ah oo dhinacna iktisaab iyo tathbiit ka noqon kara dhinacna mucaalaja ka noqon kara taaliifku waa marxalad dambe oo qofku waxa laga yaabaa markuu aqoon fiican helo inuu bilaabo. laakiin culimada muslimiinta qaarkood waxay yaqaaneen wax la yiraahdo tadwiin at-tahsiili ama taaliif at-tahsiili qofku inuu cilmiga ku barto inuu xalifo. ninka ugu caansan oo loo tiiriyo dariiqada noocaas oo kale ah Imaam Nawawi rahimahullah ta'ala keligii maaha. culimada muslimiin oo badan waxaad arkaysaa markay 12 jir ahaayeen lagu oranayo kitaabkii ugu horreeyay wuxuu ku qoray isagoo 14 jir ama 13 ama 15 ama 16 badanaa kutubta noocaas oo kale kutub la nashriya maaha laakiin kutub ay ugu talagaleen inay masaladan ku bartaan ama cilmi fiican oo faa'iido oo fiqhi ay ku helaan. asrawi kale rahimahullah ta'ala fi kitaab al-muhimmat wuxuu ka hadlayo كان تأليفه تحصيلا وتحصيله تأليفا. وحو علمي هلانو تأليف وكدقي جري وحو تأليفين ينا تحصيل أهم وقادن جري علم أهم وقادن جري. نووي رحمه الله تعالى مركا طيب وحيابها وحولي هي كسر موضوع كساب سنة قضب كأن ربا إن طلبت علمي وكقضي دان وحوي كتاب كفنقة آد ربط فإن سوى عن أبرته إن آد قرآن كسميسو قرآن كسميسو مثلا وحاتين طلبت اللغة مثلا ابن مالك وكلا وكتابه ugu muhiimsan oo laga dhigto xagga darsiga tadriiska marka la joogo kitaabka ugu muhiimsan oo kitaabu darsin ah weey. kitaabkaas oo kale marka inaad taariif ku samayso oo مثلا sharax ku samayso ishkaalaadkiisa oo kale aruuriso الله musta'aan wixii lagu qabsaday culimada muslimiintu ku qabsadeen مثلا ama culimada luqada ku qabsadeen aad aruuriso iyo wixii laga jawaabayba
shawaahidiisa inaad aruuriso taaliif noocaas oo kale inaad samayso waa qodob muhiim ah nawawi raximah allahu tacaala kitaabka maalan tanbiiha oo ah kitaab shiraazi raximah allahu tacaala fi lfiqh kitaab shiraazi kitaabkiisa wuxuu ahaa kitaabka fiqiga marka la joogo masaladan dib baan kaga hadli doonaa yani qaabka ah kitaab qaadashada kitaab yeelashada waa kitaabkiisa fiqiga ahaa ee mukhtasarka ahaa marka wuxuu leeyahay nukat buu ka aruuriyey kitaab yara nukat tanbiih tasxiix tanbiih ikhtisaar tanbiih sharx tanbiih allahuma istacaan takhriij tanbiih ma huba inuu leeyahay laakiin yani intaas oo mawduuco kala duwan oo taaliifaat oo qaarkoodna hadda matbuuca yihiin oo dhammaantood tanbiiha ku saabsan yihiin limaada waxaan u samaynaya leanna tanbiihu wuxuu ahaa kitaabka uu mar kastaba u noqdo ee mukhtasarkiisa ah ee uu xifdisan yahay 4 bilood buu ku xifdiyey kadibna wuxuu bilaabay inuu aad u baaro masaa'ilkiisa marka kitaabkaasi waxa weeye macnaheedu waa dubtay wax allaale wixii laga weydiiyo waa garanaya sheekhu wax allaale wixii laga weydiiyo sawaan kaana daqiiqatan waxa laga yaabaa marka qaarkood kii qoraba inuu uga sii aqoon bato marka qofku sidaas oo kale ugu mashquulo kutubta ka mid ah marka khasab ma aha ishkaaliyada waxaa jirta qofku uu tawahumayo ah qofku inuu nashriyo khasab maaha inaad nashriso uktubu linafsik alifu linafsik dariiqadaa ma naqaano inaad dadka kale u qorto khasab maaha marka hore adigu kitaabka isu qor adigu hada aham shay adigu inaad isu qorto waayo adaa ka faa'iidaya waxa aad baarayso aad baxsinayso aad qorayso aad isu keenayso adaa faa'iidaya kadibna waad ugu noqonaysaa waad akhrinaysaa waad ku celinaysaa marba meel baad wax ka jaraysaa marba meel baad wax ku daraysaa saasaa marka waxaa keenaysaa inaad kitaabkii dabtiso fadhigana aad dabtiso baa ku imanaysaa adigu u aragto inuu u qalmo inaad nashayso wax dhiba ma laha alxaawil kabiirkan maawardi qoray haddaanan gafayn inuusan kitaab kale ahayn isagaa isu qoray maawardi isagaa isugu talagalay inuu isu qoro kadibna markii uu dhintay kadib baa la faafiyey kitaabkii oo kitaab muslimiinta kale iyo culimadii fiqiga shaaficiyadana ay ka faa'iidaystaan uu noqday mahaaraadka fanniga ah haddaan wax ka tilmaamo waxaa ugu muhiimsan dhowr mahaaraan ka tilmaamaya mahaarada koowaad waxa weeye mahaaratu wadci alahdaaf qofku nolosha waa inuu hadaf ka leeyahay yoolashu marka way badan karayaan waxaa laga yaaba inay noqoto maalan yool ah ku saabsan dhaqaale fiican inuu helo inuu caalim noqdo inuu maalan madaxtinimo helo inuu yoolal badan laakiin yoolasha qaarkoodna waa la kulmin karaya qaarkoodna waxaa laga yaaba inaysan isqaadan karaynin wixii yoolal isqaadan karaya laftarkoodaba waxay u baahan yihin in la kala habeeyo yoolkaaga koowaadaad nolosha u leedahay waa maxay maalan marka laga yimaado cibaadada ilahi subxaana watacaala ilan waa yoolka ugu muhiimsana nolosha leenahay maxaa ku xiga maalan idinka dalabata cilmi baa tihin culimonimo oo kale waa yool qofku inuu noqdo caalim muslim ah oo cilmigaa wax laga weydiiyo tusaalehaan cilmiga luqada wax laga weydiiyo cilmiga fiqiga cilmiga caqiidada cilmigaa wax laga weydiiyo inuu noqdo waa yool markaa ayib yoolkaasoo kale iyo hadafka marka aad leedahay wasaaisha ahdaaftu ay leeyihiin badanaaba qofka waxaa looga yimaadaa inuu ama ahdaaftu tadaabur ay ka dhacdo qofku maalinba meel buu joogaa habeen wuxuu kusoo toosaa inuu madaxweyne noqdo habeen wuxuu kusoo toosaa inuu shakhaasha oo kale noqdo oo caalim luqo iyo cilmigii kaleba isla haya ah habeen wuxuu kusoo toosaa inuu noqdo dahabshiir oo kale habeenba wuxuu kusoo toosaa yool cusub ama bil kastaba yool buu leeyahay qofka noocaas oo kale ah oo yani yoolasha badan yoolal badnahaasi waxay u badan tahay qaaliban hadhow inuusan waxba faa'iidin inuusan hadhow waxba keenin bay u badan tahay hadduu hal yool qofku leeyahay ama yoolashii ay u xadidan yihiinna waxaa iskaalahood kaga yimaadaan masalada wasaaisha yool kastaba wuxuu leeyahay wasaa'il hadhow wasaa'ishiisaad u kala hormarinaysaa tarjiix aljamc bayn alwasaa'il iyo altarjiix bayn alwasaa'il baa ishkaal ka yimaada waxaa laga yaabaa مثلا طالب علمي baa tahay adigu hadafkaaga u badan waxa weeye inaad cilmigaas meel fiican ka gaadho ayib wasaaisha uu leeyahay waxaa kamid inaad dersi dhegeysato dhegeysashada dersiga iyo shaqada oo kale maalan hadday istacaarudaan shaqadu waa wasiilo weye inaad shaqayso oo wasiilo inaad dersiga dhigataana waa wasiilo labaduba waxay wasiilo u yihiin yool aad leedahay laakiin labadii yool kee kuu muhiimsan ka kuu muhiimsan oo awalka ah baad hormarinaysaa wasiiladiisa allahumma haddaysan wasiilada kale ahayn wasiilo daruuri ah oo aad maalan noloshaadii oo kale aadan maarayn karaynin haddaadan helinin maalan wasiilada shaqada oo kale ama waxa lamidka ah marka kala hormarinta wasaa'ilku mar kastaaba waa inay ku xidhnaato sida marba yoolku kugu dejisan yahay qodobka ku xijinaya waxa weeye masalada ku saabsan tandiim alwaqti waqtigu waa qodobka ugu muhiimsan ee uu taalib cilmigu haysto meeshuu doonaba ha joogo weliba taalib cilmigu markuu ku jiro marxaladan aan hadda sheegayo ah markuu ku jiro heerkan tacallum daata ee qofku isagu xisbarayo waxa ugu muhiimsan uu kaga duwan yahay ardayga kale ee mu'asasada ku jira waxa weeye waqtiga waayo waqtigiisa isagaa nidaamsanaya isagaas ku jaangoosanaya ama marka adigu waxbarasho kale ku jiro tacallum daatina wad ama tacallum daati kaliya wad oo waxbarasho kale ha ku jirin
waqtiga iyo habeyntiisu waa meesha aan biyo kama dhimcaanka ah oo aan waxba ka soo haraynin marka laba qodob baan lagaaga baahan yahay taalib cilmi markaa tahay xagga waqtiga ku saabsan midka koowaad waxa weeye muxaafadadiisa midka labaadna waxa weeye tandiimkiisa muxaafadadu culimadu wax badan bay ka yidhaahdeen ilaalinta waqtiga inuusan kaa dayacmin sudan iyo sabahlala iyo qofku inuu waxa la yidhaahdo taalib cilmina sheegto habeenkiina maqaaxiyaha ka qoslo aroortiina marna kubad ciyaaro marna waxa la yidhahdo dhalinyarta la sheekaysto yani qofku iskaga jiro ciyaar isbuuciina hal kitaab dhegeysta ama laba kitaab hadhow inuu yidhahdo taalib cilmi baana laasaas taalib cilmi kuma noqonayso caalimna kuma gaaraysid heerkiisa culamada muslimiintu markaad adigu hadda aad matalan ku dayanaysid aynu leenahay sideeda wax loo barto nawowi oo kale maalinkii 13 darsi buu lahaa 13 fanni buu akhrisan jiray 13 darsi buu akhrisan jiray funuun kala duwan culamada qaarkoodna bal akthar min dalika 15 darsi buu maalinkii shawkaani oo kale rajeynaya inuu akhrisan jiray marka waa yawmiyan every day 12 darsi ama 15 darsi adana waxaad rabtaa inaad tiraahdo 2 darsi ama 3 darsi baan isbuuci xaadiraayo midna 2 jeer baan dhigtaa midna mar baan dhigtaa khalaas saas taalib cilmi ku ah يعني maxay u gaari la'anahay meeshii nawowi oo kale oo barona sidii wuxuu bari jiray seen u gaarna oo qodob markaa ku saabsan muxaafadada qiimada zaman cinda ulama waa ugu noqonaysaa wixii ku saabsan miftax ugu qodda hadda ku sii dhaaraan ma takhdiidka mas'alada ku saabsan habeynta waqtiga waa qodobka ugu muhiimsan weeye anigu dariiqa ahaan waxaan tijaabiyay aan kula talinaya waxa weeye dadku way kala duwan yihiin xagga jadwalaynta waqtiga inuu qofku jadwal waqti samaysto dadka qaarkoodna way jecel yihiin qaarna ma jecla laakiin dariiqadan anigu tijaabiyo runtii aadna u qayim ah waxyaabaha aynu ka caban hadda waxaa ka mid ah qofka marka waraysto nolosha qaybaheeda kala duwan cilmiguna ka mid yahay waniyo maxaa waxaas dhacay aad u samaynaaday wuxuu leeyahay qofkii maalan waqtigii ma haysto waqtigii waa igu celiyo waqtigii ba sidan waqtigii yani ceebo fara badan bartuu ka lahaa ninkii shaacirka ah naciibu zamanana wala ciibu fiina wamaa lizamanina ciibu siwaana marka qofku waxaa laga yaabaa inuu eedda aynu waqtiga ku riixno eedda aad waqtiga ku riixayso bal tijaabadan yaran kuu sheegaya samee kadibna arag inay ceebtaasi waqtigu leeyahay iyo inaad ceebta adigu leedahay waxaad samaysaa warqad soo qaado ama buug soo qaado ama waxuun matalan warqad etiriyo kale soo qaado 24 saacad haysato ilan maalinku waa 24 saac ku qor hal saac oo kamid ah ka tegin hal daqiiqo kamid ah ka tegin xataa waqtiyada breega sooran dad ma dhigato ama jaamacada ama iskuul waqtiyada breega xiisaduhu baxaan 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo haka reebin dhammaantood ku dar weliba gooni u qor 5 daqiiqo xiisadaha u dhexeeya gooni u qor jadwalka waa meel gooni kaga yaalaan kadibna waxaad bilowdaa 24 maalmood qor waqtiga aad seexanayso ku qor waqtiga aad soo jeedo ku qor waqtiga aad wax cunayso iyo waqtiga aad wax baranayso ku qor yani dhammaan waqtigaaga mid kasta waxaad qabanayso saacadaad hurdid waxaad ku qortaa waan hurdaa saacadaas jadwalka waxba ha ka tegin adigu welibana yar yaro saacadaha isku wada qabane yani matalan hal saac iyo laba saac isugu qabane jarjar wixii aad 30 daqiiqo 40 daqiiqo muxuu ahaayey saacad saa isugu xidhxidh yani aad hasugu wixii israac ah oo kale misaalahan haddaad ku jirto jaamacad baad dhigataa 3 saacadood maalinkii oo israac ah 3 saacadood israac ah oo kale dhib ma leh isagu 3 saacadood kale inaad israaciso si waqti meeshii kugu soo koobmo ama jadwalkii uu kugu koobmo waxaa samaysaa marka 24 saac markaa sidaa u jarjarto bal waxa aad hayso geli cibaadada geli hurdada geli cuntada geli shaqadan haysa geli cilmigaad baratana geli dhammaantood 7 maalmoodba iyo 24 saac waxaan anigu rag fara badan taqriiban ama dhalinyaro badan aan u sheegay dib waxay igaga soo celiyeen boqolkiiba ugu yaraan 30 waqtigooda ka mid ah inaan waxba qaban jirinin waxaana laga yaabaa in markii hore hal kitaab oo isleeyahay dhegayso inuu isaga daynayay sabab ah ma waqti uma hayo markuu jadwalka sameeyana wuxuu helay boqolkiiba 30 waqtigiisa inaan waxba qabanba waxba haynba gebigiisa ciyaar kaga lugo marka adoo awqaatul istijmaamka iyo raaxada iyo waxaas oo dhan ay ka reebaynin jadwalka noocaas oo kale 24 samayso iyo sidaas waqtigaaga ku habayso waana inaad taqaano jadwalkaaga inaad shaqo geliso laakiin haddaad jadwal leedahay laakiin uusan shaqaynin de maxaad faa'iide waxaa faa'iide ma jiro waa waqtiga iskaga riday inaad ku shaqeen markaa wax daruuri ah مثلا dee qof dhintay oo kale oo qaraabo ah iyo wax lamida maahaane wax kale jadwalkaaga isuusan u baaqan muxaabaad ha samaynin iithaar ha samaynin waxa la yidhaahdo waxyaabaha yaryar oo dhan oo laga maarmayo jadwalkaaga ku soco sida laa loo isticmaalo baro qofka dadku waxa la yidhaahdo kuma oga waxaanad wadid qof kasta isaga runtiisu ka fushado waa marka isticmaal kara sumay hawba ku jira dambalay hawba ku jira waa karayso waxa qodob mibahara mila ah u baahan runtii mibahara fiican ikhtiyaar alfan
fanniga aad baranayso marka aadan adigu haysan mu'asaso wax ku baraysa sidee fanniga u dooranaysaa fanniga doorashadiisu qaaliban wuxuu ku xiran yahay laba qodob midkood inaad jeceshahay iyo in loo baahan yahay inaad jeceshahay baan weliba muhiim ah fanniga aad jeceshahay barashadiisa iyo fanniga aad jeceshahay fanniga shardiga u ah مثلا فقه baad jeceshahay fiqiga culum luqa waa culum luqa waa culumta shardi dhammaan culumta kala duwan oo kale ah culumta kala duwan oo dhan bay shardi u tahay marka cilmigaad jeceshahay iyo cilmiga shardiga iyo cilmiga waaqica aad taagan tahay marka looga baahan yahay ama ha ahaato مثلا masaa'ilka ka mid ah markaa doodi ka kacday ama ha ahaato مثلا meesha aad joogto tuulaad ku nooshahay tuulada waxaa loo baahan yahay dadka in wax loo dhaxlo waxaa loo baahan yahay dadkii in loo simo nabaradii iyo waxyaabihii soo gaadhay waxaa loo baahan yahay dadkii in laysu meheriyo cilmigii fiqiga ahaa markaa kama maarmaysid markaa tuulo joogtid oo kale waa in markaa cilmiga noocaas oo kale ah barataa waxaad joogtaa qurbe waxaad u baahan tahay waxa la yidhaahdo fiqh alaqaliyaat aqaliyadaad ku nooshahay fiqigeeda inaad barato sababtoo ah waa dantaa keenaysa waxaad ku dhex jirtaa matalan ganacsi fiqiga ganacsigaad u baahan tahay waxaad ku jirtaa matalan siyaasad fiqigii siyaasadaad u baahan tahay siyaasadda sharciga marka waxyaaba noocaas oo kale ah oo waaqicu keeno iyo jacaylka aad adigu jeceshahay labadaa qodob ayaa fanniga badanaba keena in lagu doorto funuun fara badan oo qofku inuu barto waa sidai culimmada muslimiintu ahaayeen laba nooc bayna culimmadu ahaayeen yani caalimku culumta marka loo eego laba mid buu ku noqon jiray laba midun buu ahaan jiray ama inuu ahaado cilmu likhtisaas ama cilmu lmushaaraka marka waxaa la odhan jiray fulaanun cilmigaasu yaqaana cilmigaana waa mushaarik ayib inaan dhameeyo marka waa soo kobkoobi insha allah si aanu waxa laga yaaba waqti hurdaana soo gaaray masale ikhtiyaar fan ku saabsan intaan kaga imaado waxaa jira masale ku saabsan laba fani oo qofku mar wada barto iyo inuu hal fani inuu barto kee u fiican anigu waxaan ku talinayaa hadduu qofku isagu iswado ousan madrase iyo macad iyo jaamacad ku xidhnayn hal fani baro hal fani itqaani weliba fanigu hadduu gaaban yahay kadib funuunta dhaadheer waxaad isku wadaa oo kale matalan hal fani oo dheer ومثلا ده وقتigaaga oo dhan qaadanaya fiqiga oo kale waa fani aad u dheer مثلا xadiidka oo kale waa fani aad u dheer marka fanigaas oo kale isagu waqti dheer maadaama uu qaadanaya iska wad waxaad ku dhex wadaa fani waqti yar oo kooban qaadanaya sarfi ah مثلا balaaqa ah naxwo ah ku dhex wad marka labadaa fani oo kale isku wad kadibna markaad itqaan gaadho oo labadaa fani si wacan u barato muddo yar oo kooban bay kugu qaadanaysaa kadibna faniga kala gudo sidaasaa fiican sidaasina culimadu ridwaanu calayhim ku tani jireen ayib kitaabka aad wax ka dhiganayso qaabka loo doorto iyo maharada u baahan yahay kitaabku waa laba nooc midna waxa weeye kitaabka asaasiga aad wax ka baranayso midna waa kitaab takhasus kitaabka asaasiga ah ee wax ka baranayso marka aad dawra dhiganaysa ama aad bilowga tahay silsiladda uun baad qaadaysaa waxba ha isku daalin wax kale silsiladda uun baad qaadaysaa haddii aadan haysanin matalan meel silsiladda lagu akhrinayo waa ajirada ka dhegaysanayso silsiladda meesha aad joogtid laga yaqaano ama matalan inagu soomaali baynu nahay silsiladaha aynu naqaano luqada silsiladda sheekh khaashi akhriye oo kale fiqiga silsiladaha culimadeena ay akhriyeen sheekh maxamed cali galle iyo culimada lamidka akhriyeen saasoo kale ubaad silsiladda u qaadayso aad u wadaysaa taasad markaa waxaad ku gaaraysaa inaad kutubta asaasiga ah sidaa ku wada dhigato ayib kutubta asaasiga ahina saddex qaybood baad uga baahan tahay kitaabu darsin kitaabu xufdin iyo kitaabu itilaac kitaabu darsin waa kanaynu sheegayno oo markaa silsiladahan ah kitaabu xifdin fanni kastaaba wuxuu kaaga baahan yahay khaasatan fanniga aad takhasuska goonida u yeelanayso inaad kutub aad ka xifdiso ay yeelato مثلا نحوه كلام ابن مالك زبدك وكلام مثلا زبدك وكلام فقهك عراقي أو سيودك وكلام وهكذا يعني صرف لا يتفعل كما حديقه وكذا وهكذا فني كستو كتابات كحفظ وين وليها أو يران وهل كتاب أو لما كتاب مثلا مرة هذا قيمين يا ألفية حفظ كرسة كتاب مختصر حفظ كرسة تسهل على قوتها لو كتاب الاطلاع بدنا أبا اطلاع مرحلة أساسية مرسو يعني اطلاع adiga waxba kuma tarayo kuma fiicna marka hadduu soo gaadho marxalada alwusuul ama marxalada takhasuska soo gaadho itlaac aad kugu fiicanye marka waxaad u baahan tahay kitaabka takhasuska doorashadiisa kitaabka takhasuska waxaan ka wadaa waxaa jira tusaale ahaan waxaad dhigatay silsilada naxwaha la yaqaanay ilaa ibnu maaliga gaadhaad dhigatay ibnu maaligaad dhamaysay ayib xaggaasaad kaga tegaysaa miya khalaas yani maadaama ibnu maaliga xifdisay oo kale amaad dhamaysay halkaasaad kaga tegaysaa la waxaan u baahannahay waxa la yidhahda alkitaab albadaar kitaab yani weligaaba aad wado weligaaba intaad nooshahay aad wadato oo mukhtasar ah fuqahadu waxay aqoon jireen oo lahaan jireen gaar ahaan fiqiga shaaficiga ah oo kale
talabatu cilmigu laba kitaab midkood baa mukhtasar ahaan ay u qaadan jireen oo ahaa kitaabkooda mukhtasarka ah ilaa weligood intay nool yihiin ay iltizaami jireen oo ku celcelin jireen oo akhrin jireen mar kastaba tanbiiha ama kitaabka la yiraahdo muhadabka tanbiiha ama muhadabka ala afan tanbiiha ama wasiidka Ghazali marka maxaa ka wada tanbiiho kale marka waa ibn Malik oo kale mathalay ibn Malik marka dhigato ilaa maalinka dhimanayso ibn Malik baad wadanaysaa siyad wadanaysaa marka koow horta wirdi baad yeelanaysaa kitaabka labo kitaabkaasi dhammaan wixii cilmi ku tacalluqa baad baranaysaa shuruuxdiisu aad la akhrinaysaa xawaashida saaran baad la akhrinaysaa ishkaalaadka lagu soo arooriyay baad akhrinaysaa sidaynu hadda nagu sheegaynay tanbiiha uu galay oo kale kitaabkaas marka wuxuu ku noqonayaa kitaabul umri kitaab takhasus kitaab aad u lafa gurto fanniga waxa ku jira marka waa meelaha culimadu ay ku soo baxaan fanniga markay rabaan inay cilmigaas uu sugo waxyaabaha lagu sugay ka mid ah طيب waxaad la yeelanaysaa oo kale kitaab ka weyn oo isaguna sidaas oo kale aad gurdi uga yeelato oo aad ama sanadkii mar akhriso ama 2 jeer ama 3 jeer akhriso fiqiga kale midalan ardayda tanbiiha baranaysa waxa kitaabkooda weyn oo ay mutaalacaystaan ahaan jiray kitaabka la yiraahdo xaawil kabiirka oo misaalka ay ugu noqdaan xaawiga maawardi wasiidkoo kalena nihaayat al-jawayni marka waxaan ka wadaa ayaa alxiba kitaab تخصص يعني كتاب كدورانيس تخصص كا waa ina aad si xoog leh aad u siisaa taas marka waxa ku gula talinaya macalinka oo kale hadaad adigu garanayso aad gaadhay marxalad aad ku kala sooci karayso kutubta dhib male hadii kale macalinkaaga aad kala tashanaysaa kitaab takhasus nusqa fiican waliba waad ka qaadanaysaa waayo waxa la rabaa kitaabkii matalan waxaad ka dhigatay oo kale ibn Aqiilka oo kale waxaad ka dhigatay kitaab takhasus oo luqa ah nusqa fiican bad marka aad ku celceliso oo aan akhtaa badnayn hadhow marka waxaad samaynaysaa kitaabkii markaad dhamayso ee aad akhriso ee aad ku celiso waxaad akhrinaysaa tusaale ahaan oo kale ibn Hishaamka sharixiisa baad la akhrinaysaa isagii ibn Hishaamka sharixiisii wax allaale wixii zawaa'id ah ee ku jiray baad ka soo qaadanaysaa zawaa'idii marka waxaad ku daraysaa ibn Aqiilka ku dul qoranaysaa hadhow waxaad akhrinaysaa matalan xawaashidii ama shuruuxdii kale makuudiga iyo kuwii baad akhrinaysaa kadib ka soo qaadanaysaa zawaa'idii baad marka kitaabkaaga nuskhadii ku dul qoranaysaa adigu marka hadhow waxaad haysataa kitaabkii ibn Aqiilka ahaa iyo ilaa 5 kitaab 10 kitaab 20 kitaab zawaa'idoodii ba waxay kugu qoran yihiin nuskhada aad adigu haysato hadhow markaad akhrinayso marka matalan 3 4 5 kitaab zawaa'idooda aad ku qorto aad akhrinayso waxaad ka dhigantahay ka annaba inaad 4 kitaab ama 5 kitaab wada akhrinayso hal mar oo kaliya qodob baan ku gabagabeynayaa masalada ku saabsan oo ah ardaygu inuu barto magacyada kutubta marka marmaan sidoo kale wadaa'if kutub waxyaabaha aadka muhiimka ah tahay ardayduna taqriiban aysan war badan ka haynin وظائف الترك كتاب محل لوgu talagalay sidiisaba yani culimadu markay qorayaan kutubta iska qoro horta banaan ama kitaab kasta macnuu leeyahay waxba loo qoraa waxa laga yaabaa tusaale ahaan ee midna ishkaaraadka in aad aragteen waa laga yaabaa waxa laga yaabaa midna ardaygu sharax u akhrinaya sharxiga mas'ala ishkaarka galisaa ishkaalkii sharxan galay uu fahmi waayay xageeb u doonanaya ardayda badankooda xawaashida u doonta xawaashida kutubta sharuuxda la saaro طيب ishkaalku waxa weeye xawaashida looguma talagelin iidaax shuruux in shuruuxda la tawdiixiyo oo ishkaalaadka shuruuxdu leedahay la cadeeyo erayo ka fudfudtii lagu qoro waxaa loogu talagalay in masaa'ilka lagu sii sameeyo tacmiiq iyo ithraar walidaalika waxaa laga yaabaa masaladii ishkaalka lahayd inuusan uba tacarudin ama uusan gaarin ama inuu soo qaato laakiinse uu sii badiyo ishkaalkii mid ka badan uu kusii qoro marka macnaheedu waxa weeye wadiifat alkitaab markaad garanayso meeshaad u dooranayso ama meeshaad ka raajicinayso oo kale matalan markaad masale baarayso oo kale haddee masaladii xaggaad ka baadhanaysaa ma matnigaad ka baadhi ma sharaxaad ka baadhi ma xaashiyadaad ka baadhi ma meeshaad ka baadhayso masaladaasi waxay ku xiran tahay wadiifada kitaabka hadba sidaad u taqaan ayib qadiyadda ku xigta ikhtiyaar sheekha dhowr qodob baa lagu doortaa waan khulaasaynaya isaga sheekhu waa laga maarmaan horta sideeda camaliyada tacliimiga ama adigu wax isbar ama muasasad dhigo saa doontid ahaw ma jirto yani qof ta'huuli karayo cilmi heli karaya isagaan sheekh lahayn sheekhaas marka ama sheekhu hor fadhiya ha aado ama sheekhaad online kala xiriirayso ama sheekha jiladiisa aad dhegeysanaysa ahaado luuqada sharxiisana wax ku doorato waa muhiim culimadeena soomaalida runtii aad baa idinkula talinaya inaad dhegeystaan laakiin waxaan kaloo idinkula talinaya markaad culimada soomaalida wax badan ka dhegeystaan inaad culimada luuqada carabiga faa'iida idin leedahay ah inaad luuqadii carabiga la qabsan karaysaan waayo waa maharat alistimaac
luqada carabiga aynu ku dhibannahay inaynu ku hadalno ama aynu soo roganaba haddaad badsataan inaad luqada carabiga wax ku dhegeysataan waxay keenaysaa inay idiin fududaan karayso inaad ku hadashaan oo aad wax ka soo celi karaysaan waayo mahaarat alistimac waxay ka mid tahay mahaaraadka qofka keena in luqada carabiga barto marka cilmigiina waad helaysaa dhinacna luqadii carabiga habaad uga faa'iidaysaa طيب marka inaad مثلا markaad luqada carabiga baranayso iyo qawaacideeda inaadan culimadeena soomaalida markaa si wacan uga barato culimadeena luqada carabiga wax ku sharaxaysa ama culimo soomaaliyeed oo carabi wax ku sharaxda ha noqoto ama culimo carabeed ha noqdeene inaad bal iyagana dhegeysato faa'iido fiican bay leedahay qolka takhasuskiisa inaad ku qiimayso sheekha mutakhasiska faniga ah inaad ka qaadato ba ka aweysan inaad sheekha culumta badan yaqaana ka qaadato culimaduna sidaas weligood baahay waana lagu kala rajixi jiray suyuuti iyo مثلا sakhawi haddii ay masalo isku qabtaan cilmu alxadiid culimada qaaliban waxay rajaxaan sakhawi laana sakhawi waa mutakhasis fi alxadiid baynama suyuuti uu culum aad u fara badan wada yaqaanay xadiiskuna uu ka mid ahaa marka sheekha mutakhasiska ah fannigaa sida goonida ah u yaqaana dabcan ammaanta iyo sida loogu xidhaya iyo waxyaabahaasina waa qodob kale laakiin waa qodob lagu degmo mararka qaarkood waxaa laga yaaba qofku isagoo aqoontiisiiba uusan ahayn عميق إن تذكر دين على كذا حلمان أما حزب أما مذهب أما إشكال كذا وجرو نقف كونه مركز طبعا أعلم كوراسده وحكينا سائل علم فيه عن هذا قدم كعلماء واوين وحلق نجيستوا قد بعض مهمة لكن ده اللي يردون وحده بحواليه بشرو مهمة واوين وحلي هذا لا يركل يكون كافته علماء واوين صمتي هذه يدلي واحد من الكفاءة دي طريقة درس جو آخري يفهم كيسي وحيابها سو كله أردت يجا أسئلة تشرب بدنا وقضى بدنا وكله هذا تدرجك iyo muraacintiisa waa qodob aad muhiim ah oo laga marmaan ah arday waliba markuu isagu iswado waxyaabaha ishkaaraadka leedahay tariiqadan waa kamid qof markuu iswado waxa laga yaabaa inuu ka boodo waxay ahayd inuusan ka boodin oo qofka haddii la wado la marin lahaa marka qofku inuusan isagu isla weynaano meel isla gaadhin tadarrujka inuu sameeyo oo hadduusan aajurruumiga dhiganin uusan kawaakibka iyo qadrinadaha iyo xiriiriga iyo uusan u boodin ilaa iyo ibnu maaliga markuu aajurruumiga soo dabtiyo dhigan soo dabtin weliba qodobkaas raba inaan carabka aad uga soo adkeeyo farqi baa u dhexeeya dhigashada iyo dabtiga waxaa laga yaabaa inaad ajuruumiga soo dhigato laakiin jaahil aad ka tahay adan waxba ka garanayni ku celi markaa ku celi waaban soo dhigtahay odhane ku celi oo dad soo dabti si wacan u soo dabti ayib takhasuska iyo fanni gooni ah qofku inuu xoogga saaro waa laga maarmaan markaad adigu ama xataa haddaad dhiganayso waxbarasho kale oo nidaami ah waxbarashadaas wax fara badan baa isku dhex jira laakiin adigu fanni ama laba fanni inaad xoogga saarto culimada muslimiintuna weligoodba sidaas ay ahaan jireen fannigaana marka inaad ilaa meesha ugu hooseysa aad ka gaadho innaga waxyaabaha aynu haysan jirna waxaa ka mid ah ishkaaraadka talabadeena haysan jiray qofku hadduu gaadho silsilada mathalan ilaa ibnu maalik hadduu dhigto wuxuu soo haysan jiray inuu khalaas yani lugawi ama naxwi cajiib ah uu yahay oo naxwihii liqay hadduu manhaajka gaadhona dadkuba u fatwoon jiray baynama sidaas aysan ahayn yani qofku markuu ibnu maaliga dhameeye xifdiyo waa mubtadi markuu manhaajka dhameeyo waa mubtadi ma aha yani weli muusan gaadhin marxalo uu cilmigii ku waxa la yidhaahdo ta'ahula muusan gaadhin weli waa mubtadigu ugu fiican yahay marka waa mubtadiga ugu fiican weeye marka waxaa la rabaa inuu qofku inuu dhaafno intan oo bal shuruuxdiina la akhriyo la muqaaraneeyo la dabtiyo waxa la yidhaahdo xawaashidii loo gudbo halkaa cilmi badan lagala soo dhex waxaynu u baahanaa si markaa yani cumqi hoos loogu dogo cilmiga ayib waxaa arkay maalik baa wuxuu arkay dhalinyaro wax baranaysa oo ardaydiisa ka mid ah oo cilmulxadiidka aad u jeclaa marka cilmulxadiidka wadatiin riwaayada aad ugu fara badan yani aliktaar min arriwaaya marka wuxuu ku yidhi haddaad rabtaan cilmigan inaad barataan oo aad si wacan u barataan faaqillaa minhu watafaqaha fiihi faaqillaa minhu wax yar ka qaato oo si wacan u fiqa ugu yeesha ayib masalada taxdiir darsiga waa ka soo hadlay baharo aad u muhiim ah oo baahan bahalki aan dhowr haddaba qodoboo ku gabagabeeyo akhiirka qodob ku saabsan masaadir almacluumaat inuu qofku kordhiyo masaadir almacluumaat cilmigan aad baranayso dabcan meel baa laga helaa meeshii laga helay markaada waa inaad raadsato ood kordhiso weeye aadna kala barato sidii aad u heli lahayd tusaale ahaan telegram sida loo isticmaalo waa inaad barato inaad mawaaqicii sida wax looga soo dejisan karayo aad barato waxyaabaha ugu dhibka badanoo mathalan talabatu cilmiga aan arkay waxaa ka mid ah ardaygu wuxuu ku weydiinaya kitaabkii pdf-ka ahaa wuxuu ku leeyahay mathalan kitaab mathalan caan ah mathalan sharx ibn caqiilka oo kale aad caan u ah wuxuu ku oranaya pdf-kiisa ii soo dir waxaa laga yaaba ardayga inuu jaamacad dhiganayo ayib haddaad jaamacad dhiganayso aadan pdf soo dejisan karaynin mushkilad waxa weeye qof cuntadii hortaallo oo leh see u cunaa ma cuni karayo gacantii aan adeegsan karaynin weye marka qofku waa inuu barto oo uu isbaro
meesha uu macluumada suu heli lahaa waa inuu isbaro weeye waa wax cilmiga ku xiran yahay marka waa inaad maktabadda sidaad u baaran kari lahayd kutubta magacyadooda tasjiilaadka iyo meelahay ku jiraan sida loo dejisto مواقعda cilmiga sida wax loo adeegsado masaadirta muxuu ahaa maalan maktabadaha shaamirada iyo barnaamijta kale cilmiga ah wax laga baadho inaad isbarto waxyaabahaas waxay inaad cilmigii si fudud u barato waxay ileen mahaaraad baynu ka hadlayna mahaaraduna waxa wixii cilmiga fududaynaya marka waxyaabahan cilmigiiba kuu fududaynayaan waana lagama maarmaan weeye marka waa inaad isbartood waqti ku bixiso maaha wax yani غayru muhim ah maaha bal waa muhim walana waa shartulmuhimi muhimun marka waxaa laydinka baahan yahay inaad si xoog leh isu bartaan qodobada noocan oo kale ah qodobaad muhiim aan idinku baraarujinaya xagga kutub iibsiga kutubta waagi hore runtii dalabta cilmiga aad bay iibsan jireen hadda garan maayo waa soo nuqsaamay kulle meelaha qaarkood qiime ku sameeyey marka kutubta in la iibsado waraqiga weliba aan lasku halaynin kutubtan teknolojiga ah oo pdf iyo waxa lamidka ah softiga kutubta ha la iibsado oo maktabadaha la samaysto qof kastaba ha isku dayo inuu maktaba samaysto bishii ugu yaraan dhowr kitaab intuu marba lacagtiisa iyo dhaqaalihiisa jeebkiisu leegyahay ha soo iibsado bil usan wax soo iibsan yaysan dhaafin qofka ayib intaa kadib ayaa laxiba waxaa jira barnaamij aad u fara badan oo cilmi ah waxaa jira cajalado fara badan oo culimadeenu duubeen barnaamijtii way fara badan yihiin marka si aysan idinku dhicin takaahirat adibaa calaa khilaashin falaa yadri khilaashun ma yasiidu waxaan idinkula talinayaa labo muxaadara inaad dhegeysataan muxaadarada koowaad axmed asayid baa galay nin sheekoo dacyara weeye waxaa la yidhahdaa ilaa tulaab albarnaamij alcilmiya marka barnaamij fara badan oo dee inaga barnaamijkeenan oo kalena kamid yahay oo carabtu leeyihiin baa jira marka ardaydaasoo kale buu taqriiban silsilad u galay mawduuca ku saabsan ilaa tulaab albarnaamij alcilmiya marka bal u noqda oo dhegeysta wax badan baan rajinaya insha allahu tacala inaad ka faa'iidi doontaan sidoo kale waxaa jirta muxaadaro qayim haniyara idinkula talinayo waxaa la yidhahdaa kayfa takhtaaru barnaamijaka alcilmi almunaasib beder aala barci waa taqriiban ilaa 2 saacadood sideed barnaamijkaaga cilmiga ah kugu adiga munaasibka ku ahaad aad u doorataa khayr badan baan ku tuhmaya anu muxaadarad ma dhegeysan laakiin waxaan garanayaa mulkiga oo taqriiban nin mufiid ah weeye marka balsina ha loo noqdo taqriiban kayfa takhtaar barnaamijka alcilmi almunaasib labadaba youtube-ka waad ka helaysaa kutubta taxdiiska cilmiga ah ee qofku markuu marba akhriyo yani uu cilmi xoogay xaraqaad fiican oo aqoon dalab wax samaynayo way fara badan yihiin kutubtii hore ee waagi hore culimmadu qori jireen ama aadaab talab iyo adab talab ku saabsanaa ama tashjiic fi talab ku saabsanaa ama xifdul cilmi ku saabsanaa waa kutubta ugu muhiimsan weeye waadna garanaysaa wax badan oo ka mida jaamic bayaan alcilmi iyo xifdul cilmi kitaabkii loola jiray أبو هلال العسكري الرحلة إلى طلب العلم الخطيب البغدادي تذكرة السامع المتكلم تعليم المتعلم زرجوجي كتب هذا فربدا باشر وموضوع على قرية متقدمين معاصرين رجال إذا لا ترينا إذا كلا ترينا وحكم لبدا كتاب وقري شيخ عبد الفتاح وقدة وكوريلا إلى هذا هنرى كل شيء قيمة الزمن عند العلماء كتبنا إلى هذا صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل كتاب كان يسمى شيخ ارتياض العلوم بشار الشتري waxaa ka mid ah kutubtan idinkula talinayo kitaabka la yidhaahdo allahu mustacaan ayib waaba igu baxsaday ayib dhowr kitaaba waxaa jira uu qoray sheekh cali alcibraan oo tashwiiq miyuu ahaa taqriiban ilaa alqira'a wa talab alcilm iyo kutub kale oo doon ah oo dhawaan soo saaray baa jira kutubtaasi akhriya insha allahu tacala wax badan baad ka faa'iidaysaa biidn illah qur'aanka iyo carabiyada cilumtoo dhan in la barto waxay u yihiin asaas lidaalika qur'aanka ha lagu dadaalo barashadiisa carabiyadana hadda waaba dee dowladani sababtaad usoo gasheen weeye aad ha loogu dadaalo weliba laba qaabba ha loogu dadaalo imlaageeda iyo qawaacidkeeda iyo sidoo kale mahaaraadkeeda sidaad uga hadli karayso carabigii qodobkan aad ha loogu dadaalo qaabkan qawaacidka inu u baranno waxaa laga yaabaa qofka inuusan inuusan siinin inuu ku hadli karayo marka waxaa jira فني اللي يراهدو تعليم العربية لغير الناطقين بها يعني dadku say uga hadli karayaan luqada carabiga marka maharaad bay leedahay bal ragga uu ku fiican insha allahu tacaala marka qaarkood haddii ay culimadu soo istidaafaysan karayaan waa fiicnaan lahayd si ay u kabto dhinaca qawaacidka inu baranayno waxaan idinkula talinayaa allah idin barakeeyo oo qodobka ugu dambeeyana ah inta aynu sheegnay iyo in kaloo fara badan oo runtii ama waqtiga awgiis aan uga tegey ama aanan baa xasuusan oo aan ilaawin ama aanan aqoonba u lahayn waa
qaababka cilmiga loo barto ama qofku gaar ahaan hadduu cilmiga isagoo isbarayo iyo hadduu ku jiro mu'asasaba dabcan wax badan bay wadaagsanayaan marka qofku sidaan hore idinku soo sheegay waxaan rabaa inaan arkayo macal waqti markaad adigu wax baranayso ha isku daarin in ka mid ah qaado waaniga idhi sidee wax u barataa sidee luqada u baran sidee cilmiga u baran sidee isu wadaysaa sidee mahara u kasban laakiin yani ha isku daarin adigu wixii bilow wixii baro gal luqadii baro fiqigii baro quraankii xifdigiisa bilow quraanka xifdigiisa see u xifdiya haddaad dhowr bilood kaa qaadato see u xifdiya waxba xifdin maysid adigu xifdiga gal hadhowna macal waqti waxaad keenaysaa maharaad cusubna waad helaysaa kuwa aad haysateena tanmiya ku dhacaysa way kordhayaan marka allah idin barakeeyo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa walaalaha barnaamijka soo abaabulay sheekh cabdihaadi iyo tiimka la shaqaynaya sheekheenna sheekh maxamed waxaan rajeynaya inaad aad uga faa'iidaystaan waa runtii culimada farakutiriska ah ee naadida oo aan u rajeynayo aan ka filayo ilahi subxaana caza wajalla agtiisa inay ka yihiin maxbuub maadaama xubidiisa talabatu cilmiga dhexdiisa u dhigay waana runtii culimada naadirka ah oo aan inqitaacu ku dhicinin qofku inuu cilmiga waniga qodobka soo hadlayno xirsiga cilmiga uu qofku ku dadaalayo laba nooc weeyaan marna waa markaad baranayso marna waa markaad dhigayso markaad baranaysana mararka qaarkood hadduu inqitaac kugu dhaco waa mushkilad markaad dhigayso laftirkiisana waxaa laga yaaba inuu inqitaac kugu dhaco waxaa laga yaaba culimo fara badan oo cilmiga dhigi jira oo inqitaac ku dhacay inuu jiro laakiin sheekhu ilaa hadda waxaad moodaa nashaadkiisa xilligu ugu badnaaba isaga oo intaasoo jeer wax soo akhriyey oo intaasoo sanawaad ah ay soo waday haddana ilaa hadda waxaad moodaa inuu nashaadkiisa ugu fiicnaaba hadda hayo marka ilahi subxana caza wajal ha barakeeyo waa u ducaynaynaa qodobkan ku gebagabeynaya waxa weeye xadiidka nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay nabigu sal alay wasalam ixris calaa maa yanfacuka wastacin billahi walaa tacjis qaacidada xadiiska haddaynu qaadano runtii wax alaale wax inaga khasaaraya ma jiro waxaan ay inoo sheegayaan tarbawiyiin iyo mathalan muxuu ahaye maharaadka kale ee idaariyiinta ay inoo sheegayaan ama muxuu ahaa tanmiyat addaat oo dadka ka shaqeeya haddaynu xadiidka nabiga sal slam iyo aayadka quraanka u fiirsano iyagaa wax badan inagaga filanba xadiidkanina wax kamid yahay xadiisa jawaamicdii hada albaab nabiga sal slam ka yidhi ixris calaa maa yanfacuka waxa ku anfacaya ku dadaal laba qodob baa ku jira alxirsu iyo alxirsu calaa maa yanfac qodobka labaad waxa weeye wastacin billah ilahay kaalmayso hadduusan ilahi subxana caza wajal kula maagin aad cilmi barato weligaa cilmi ma baranaysid marka ilahay kaalmadiisa weydiiso walaa tacjis haka caajisin cilmigan jazakum allah khayr baaraka allahu fiikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ آد بو مهدسين يهي runtii liqaa aad u qiimo badan iyo muxaadaro aad u fiican oo runtii aan rajeynaya dhammaantiin inaad ka wada faa'iidaysteen